marka ugu horeysa magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiqani Axmed sida uu sheegay Axmed Saciid waxa aan jecelahay inaan maanta halkan afar eray aan ka iraahdo kulanka ama guusha maanta aynu gaadhnay oo martiina ugu yahay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka oo aynu halkan ku soo dhaweynay oo martiina ugu caawa madaxweyne ku-xigeen dadka halkan fadhiya waxa ay yimaadeen magaaladan Ottawa ee caasimadda waddanka Canada waqti haatan laga joogo rubuc qarni ubadkii ama caydigii maalinta dhashay maanta waa hooyooyin ama waa aabbo magaaladan Ottawa caasimadda waddanka Canada waxay ka mid tahay magaalooyinka go'aamada caalamka lagu gooyo ama go'aamada caalamka ka soo baxa ay noqdaan sida taariikhdu ay qortay sideetamaadkii ra'iisul wasaarihii dalkan markaa ka talinayay waxaa la odhan jiray Brian Mulroney dalka South Africa waxaa xukumaya caddaan Traya oo ku amar ku taagleynayay malaayiin qof oo sinji ahaan aynu isku sinjinahay Brian Mulroney waxa uu qaatay ama uu ku qaatay magaaladan Ottawa caasimadda waddanka Canada guriga looga taliyo ee la yiraahdo Parliament Hill oo hudheelka aad degan tahay ee Chateaubriand u jira 100 tallaabo oo qura in uu yahay go'aanka lagu gumaysanayo dadka madow ee Koonfur Afrika mid cadaalad aan waafaqsanayn waxa uu ku gacan saaray dhammaan hogaamiyayaasha caddaanka ee guud ahaan caalamka ka jiray markaa ee u helana in gacanta lagu hayo boqolaalka malyan ee South Africa waxa uu Brian Mulroney go'aansaday in isaga iyo caasimadiisa magaaladan Ottawa iyo dadka caddaanka ah ee ku nool waddankan Canada ama midabada kala duwan leh ay qaataan go'aan ah in ay si cad garafka ugu dhuftaan midabka sooca ka socda Koonfur Afrika hogaamiyihii waqtiga jeelka ku jiray Nelson Mandela waa la soo daayay socdaalkiisii ugu horreeyay ee uu dibadda ugu soo baxo wuxuu ku yimi magaalada Ottawa caasimadda waddanka Canada waxa uu mutaystay inuu ka mid noqdo dadka reer Canada oo uu gudoomo sharcigii dhalashada ee waddanka Canada magaalada maanta madaxweyne ku-xigeen aad joogtaa waa magaalada go'aamada noocaas ay ka soo baxeen dadka reer Somaliland ee hortaada fadhiya ee quruxda badan rubuc qarni ka hor markii ay yimaadeen magaaladan Ottawa waxa ay ku yimaadeen habka waxa ka soo harnaan dagaaladii ka dhacay dalka qaar baa ku yimi halkan iyaga oo doonyo ka soo raacay qaaradda Afrika oo silc iyo saxare ka soo dhamaaday ilaahay mahadii maanta waxaan nahay dad isku filan oo nolosha waddanka laga nool yahay kaga jira kaalinta ugu sareysa waxa guul iyo gobonnimo noo ah rubuc qarni kadib in maanta uu noogu yimaado magaalada Ottawa hogaankii dalka ugu sarreeyay oo ah madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland oo waliba lagu doortay cod ah one man one vote waxay noo tahay magac waxay noo tahay muunad waxay noo tahay milge madaxweyne ku-xigeen iyo wafdiga la socota magaalada Ottawa waxay kaga jirtaa taariikhda iyo geedida qaranka Somaliland waxaan oran karaa inay kaga jirto kaalmaha ugu horeeya waxaan xasuustaa waqtigii la aasaasayay hanaanka tacliinta Jamhuuriyadda Somaliland gudaheeda magaalada Ottawa waxay ka soo qayb qaadatay yagleelidii jaamacadda aynu ugu magac daray hooyada tacliinta Somaliland ee Camud University Salebaan Guulad waa professorka hogaamiye jaamacadda xilligii uu yagleelayay waxaan ka qaaday anigu warays waxaan kaga qaaday idaacadda laanta afka Soomaaliga ee CKC ee magaalada Ottawa oo ah laanta afka Soomaaliga ugu horeysay ee laga furo waqooyiga Ameerika maalintaas waxaan go'aansaday in aan dadweynaha halkan fadhiya maanta iyo inta ka maqan aan khadka telefoonka u furo
si ay uga qayb qaataan taageerada jaamacaddaas. waan xasuustaa directorkii barnaamijyada maalintaa haystay oo gabadh la odhan jiray Christina ayaa waxay igu tidhi cabdiqaniyow dadkan haddaad taleefanada u furto armaa qaarkood tallaabaan oo ay karaaraan ay meelo kale ku dhuftaan waxay hadhowta ka yimaada adiga mas-uulka jaamacaddii camuud ee maalintaa taleefanada khadka taleefanka dadka aan ugu furaynin ee taageeradeeda aanu ka qayb qaadanaynay maanta waxaa ka qalin jebiyey 10,000 oo reer Somaliland ah oo dalkooda iyo dadkooda waayeen. waxaanu ka qayb qaadanay leelidii magaalada jaamacadda magaalada Hargeysa waanu door weyn ku lahayn. waxaanu ka qayb qaadanay leelidii jaamacadda Camuud University ee gobolka Gabiley oo aanu door weyn ku lahayn. waxaanu ka qayb qaadanay leelidii jaamacadda Burco oo aanu door weyn ku lahayn. waxaanu ka qayb qaadanay leelidii jaamacadda Sanaag ee magaalada Caarigaabo iyo jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood. waxba madaxweyne ku-xigeen iyo wafdiga la socda hortooda waxaan ka cadaynayaa in reer Ottawa wax ku baaqday aanay jirin marka laga hadlayo taageerada iyo tabantaabada qaranka Somaliland inuu noqdo qaran cagihiisa isku taagay oo ka mid noqday jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. madaxweyne ku-xigeen ubadka yaryar ee gacanta la hayo ee qaarkood halkan maanta fadhiyaan iyo inta da'da iyo inta dhexe iyo inta hawlgabka tacabkii iyo tabantaabadii ay qaranka ka geysteen waxa guul ugu filan adiga oo maanta hortooda fadhiya oo ay ku diirsanayaan ama ay arkayaan wixii ay ku tabceen oo midhadhalkooda hortooda ka muuqdo. waqtigu waa kooban yahay dheerayn maayo hadalka laakiin waxaan jecelahay maadaama madaxweyne ku-xigeenkii oo ah Soomaalidu waxay tahdaa madax meel ka sarreysa oo la salaaxaa ma jirto maadaama madaxweyne ku-xigeenkii iyo wafdigiisu inala joogaan galabta waxaan jecelahay halkan inaan dhowr qof ka xuso oo mudan in ay bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan waddankan Kanada guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Ottawa iyo nawaaxigeedaba ku leeyihiin magac iyo muunad waxtarkooda iyo taladooda iyo tabantaabadooda aanu ku hananay guulo fara badan oo soo yaal ah. dadka waxaa ka mid ah Maxamed Sheekh Cali Dalmar iskuulka Islaami School ee magaalada Ottawa ayuu ka yahay chairman dadkii aasaasay buu ka mid ahaa. waxa ku caanamaalay oo ka qalin jabiyey kumanaan arday oo reer Somaliland iyo dadka kale ee midabada faraha badan leh ee ku dhaqan waddanka Kanada. waa guul iyo magac aanu ku faanayna haddaan meesha Ottawa. waxa aanu mahadnaqayaa oo mudan in loo mahadnaqo sharaf iyo karaamana kule bulshada iyo guud ahaanba ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogaan oo aan madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa hortiisa ka cadaynaya Maxamuud Taani oo ah halyeeyadii qarankan jeelka u galay haatana ka mid ah aqoon-yahanka iyo waxgaradka iyo waayeelka magaalada Ottawa dadka reer Ottawa wanaagooda iyo waxtarkoodana kula guul iyo magac weyn. waxaan halkan ka xusayaa nin dhakhtar ah oo asal ahaan iyo isir ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. laakiin reer Somaliland marka la reer Somaliland qalbigiisa iyo wadnihiisu waa reer Somaliland. qalbiga iyo wadnuhuna waa halka keliya waa mashiinkii qofka. waa dhakhtar ciiw waa dhakhtar Cabdikariin ciiw waa ragga aan maalin ama habeen tacabkiisa iyo taladiisu reer Somaliland ka maqnayn
حفلات كاستو سديد يتبن كمي السومال لا لو خصينا واحد دور كا ميكروفون كوغورة وحن هالك كخصية أو شرفية كرامو مضن عبد القادر كاهن أو كم قعدار عبد القادر قادرو ولا كان معن خلى أنتي مشقيا شن يلا بعدين في السنة دول دنبيين كلن كان يقول الله ميدا عبد القادر وحاول كله هاي تاريخ قبل قابضة ده تابجلست ده يتيرين تده بقى وحنوران كنا هو دحال هالدور كعب الشدة غير سومال وحنسجل أول ما هذا قيا ويل كحوت كان معانا الميكروفون كقرأت إنه هيا وأحمد صدقين أحمد صدقين وهرجع قبل قابياشة إيو تاريخ إيو هالدور لماذا بقولها إن بالشدة غير سومال أي كلامنا نوعا وقاس قلت مع الدور هذه الشرارات دور قوي كعيار وفوت غير سومال الآن هذه أي تاي برلمانكا هذه أي تاي برمجيدة يا هذه أي تاي مدح ذكرك كوي بوسرية وما أنت أنا شوقين تبع أحمد سعود وأنا مهاد نقيا وعن كلام مهاد نقيا حويني بهيب كم من السياسيين تي الخدمات تي الله ونحرست سوايها نوعها ولبا وهذا الخصوصية هيصها مجوراك وكتبي أما مسكحة يسكسو معري وحكمل لها أقوال خصوصا إنسان حديثها عن قوضومو قيد الدنيا قاتيها هذا يجور عمان قرتين سموينا لوكي سنجر ومرحوم كياس طالها يدو مقالة توي دقنت هاي على مدى نقشدها داهيدا وحيابها قروح لبضان وهيدها يدقنك وحاصورا يدا أيا سوق بقابصة وكله تاريخ يوناك بكله إما كان أولي بسياسيات بين قطوة قدومية هكذا كهوان كريف سومالي الآن يحسبك كلية والليلة محمد أمان واللي بوحن خلاص سيبوك له ومهدنا قيا ومضن الله مهدنا قودي هذا حاج هذا على عبادة وأحد اللي يرى في فرعون تبطابة هي طلادة هي واحتركب كجيستا حفل لها يو اسكو دبريك برامجنا غير سومالي على نوع مهدنا قيا هذا الكواد اللي وعكسوا جبين يا سومالي لأنه ولا مدحوينك وحجينك يا مدحوينه يو إنك مقن يو وفود الله سبحانه أنت إنك مقننا إلهي عمرك ولا هذا يراي كل شيء إلهي هو سهل حسبية إن قرب إنك على وحبايا إنه كلام تريني عبد الرحمن سيلعي يا أحمد سيلاني يا عبد الرحمن عرب يا جمال علي حسين يا فيصل على ورابه يا ساد لما أنتين وين مدين أنتين نعم بكرة شأن عاد كلام ما يدعون أنتي هو جامين دون أنا وأنتين وين وسكرنا هبين كميالها وقيا أنا بريها وحباينا حملنا وحباينا غير يو قبل يدك ما فرت كوجودي عبد الرحمن سيلعي يا عبد الرحمن عرب أنا جاي مكلا حجاب مدول بوح الدنيا إنه قرن كوجاميو أو قرن كوجو قبان كراو قبطه أو تأكل يوم طبعا تابيو يوم كان هالبي هاليو قارسيو المال ريال أو ولا ريال وسيد يصدق يأبتي يرابتي وحبايا إنه كلابترين وحبايا إنه كلابترين إنك على وعيهني سد هذا حسبي إنك على سماي سماي وحنو سماي سنين من قبيلك كعلب ترى وحنو سماي سنين من قبلايسك كعلب ترى وحنو سماي سنة إنه هو اللي بقى يعني في أمضاء إن نقشة القاعدة تاعي كل والله ما أنت وسيدة قواسي عيدلك وديتك وحقوق قبتان إن سد هذا حسبي إنه جاميان وعيدلك وديتك إنه حقوق قبتان وحنا يقول جوبنينو وما تنتظر السلام عليكم ورحمة الله
وزير أخبارشة وزير الدولة أخبارشة أو هذا الكوان كنا وجهين دولة شنو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مدحونا كحيانك جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي وكيل الصوماليلاند كندا مامباستركا لول تشيلاني حلديبانكا بعض الصحافة شالية تغيير الصوماليلاند أوروبا يساحي بدولة مستر عيو waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xilligan waxaan marayaa salaadii baa dhow waxaan jeclaan lahayn cabaar inaynu xoogaa aynu wax ka tawsiino oo aynu xoogaa isu warranno laakiin waxaan doonayaa madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland baa ayaa inoo faahfaahin doonaa wixii aanu u soconin nuxurkeeda marka waxaan doonayaa inaan yar dul cararo haddii ilaahay yiraahdo intaan ka gaadhsiin karo marka ugu horeysa dalkii haddaan ka warramo oo yar isku taago kolley dalka dee dad tagaana way jiraan wixii kalena waxaa laga helaa muxuu ahaa webabkan iyo mareegaha iyo qof la hadla ama dadkiisii la hadla dalku guud ahaan aad iyo aad buu u fiicnaa wax dhib oo ka jirtay ma jirto inkastoo roobku markaanu aniga madaxweynuhu aanu ka imanaynay maalin maalmaha ka mid a waxaa lagu soo qaaday golaha in la yidhaahdo roob doon ha la akriyo oo abaar baa jirta kadib markii la doonaya arrinkaa in la sheego haddana waa ti roobku marinoo dee ilaahay roob fiican inoo shubay markaanu anagu soo baxnay iyadoo barwaaqaha dhulka baanu ka nimi oo dhulka meelo badan uu roob ka daay iminka waxay u egtay roobkii inuu yar yahay oo meelaha qaarka dee xitaa xagga galbeedkana uu ku yar yahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu inoo shubo mid naxariisa oo kadabaaya ilaahay inuu ina siiyo inoo shubo dhulka haddii aan ka warramo muxuu ahaa nabadgelyada xagga nabadgelyada somaliland waxay soo martay taariikh dheer oo taariikhda laga sheekeynayay ee ka soo bilaabantay geedka hoostiisa waxaa jirtay maalin maalmaha ka mid a oo xinjirtu taalay oo dhibtu taalay oo wax waliba yaaleen halkaasoo qofku aanu nuucsan karin oo gaaja taalay oo cabsiyi taalay oo halkaa rag iyo dumar intay u badheedheen ay yahayn ummadeenna aan kala celino innagoo aan cidna u qayshanayn oo NGO waxbayna siinayn oo dowlado kuwa deriska iyo kuwa inaga fogay midna waxbayna siinayn neefkeenna iyo galaankeenna haruurka halkaa geed hoosti aad ogeydeen meeshii lala tegay laga bilaabay peace processka ee lala tegay boorame ee dowladda maanta aynu haysanno lagu soo dhisay mid baan idiin sheegayaa reer somaliland weliba reer ottawa nabadda somaliland ka jirta maanta ninowna ha u werweri wax werwera ninowna yaanu kaa gelin waxa weeye nabaddan kos badan baa ku baxay dad badan baa wixii hadda nabaddaa waday badankoodu way dhinteen jiilba jiil buu bedelay dad baa ku suntan odayaal hogaamiye dhaqameedyo siyaasiyiin waa ku tijaar dumar hablo yaryar cid walba waa ku suntanta nabaddani waa nabad ummaddu wada haysato ummadduna wada ilaalinayso qof kastoo reer somaliland waa nabadu heegan u yahay oo ilaalinayo oo aanu ogolayn in nabaddaasi maanta ay haystaan inay ka muruxsato oo aan lagu noqdo dhibti marka qofka waxaan u sheegayaa qofka ka shaki qaba in nabaddu muruxsato ama markaan tawtaw la arko xagga iyaga wax ka qaylo ka baxaysa inaan la moodin waxaa la yidhaha ukomba wuxuu yidhi haddaad hargeysa tagto aad maqasho soo dhacayay waxba xagga sare heegin qaad lee yimiya qaadkii ubaa yimi markaa xagga sare waxba heegin soo dhacayay cirka waxba kama soo dhicin haddaad hadalkaa maqashaan annagoo meelaha ka hadlayno ay ishayaan asxaabta iyo mucaaradka iyo dowladdu iyo siyaasiyiinta madax bannaaniba ha moodina in cid isdilaysaa ma jirto nabaddan cid waliba waa ilaalinaysaa xisbiga mucaaradkaa baa ilaalinaya xukuumaddaa ilaalinaysa ka caadigaan xisbiba ahayn baa ilaalinaya hooyada tamaandhada ku gadaysa suuqaa ilaalinaysa odaygaa ilaalinaya taajirkaa ilaalinaya wadaadkaa ilaalinaya cid waliba waa ilaalinaysa nabaddu waxay tahay ummaddu way og tahay
waa la wada ilaashanaya maalin waxaan ka sheekay oo laga sheekay inaan yar oo 7 jir 8 jir ayaa nin wuxuu weydiiyey wuxuu ku yiri waa xagee bangigii Central Bank Somaliland dabeetana uu tilmaamay uu jeestay ninkii gaari uu watay ayuu haddana inankii yara sameeyay sool buu ahaa uu shakiyay dabeetana wuxuu 99 uu waran cad sameeyay gaarigan halkan 911 inankii yara 99 buu garaacay qof aan garanayno xaragoonayo qurux badan baa wuxuu weydiiyay bangigii Somaliland markaa waa ka shakiyay gaarigana taariikhdiisa iyo nambarkiisa waa ka gaarigii intaanay ka soo wareegin waxa less than 10 minutes gaarigii waa la hayay meel allaale meeshu marayo waxa weey waa la socday waa la hayay gaarigii waa inay wasamiyo soo marka waxa weey nabadda reer Somaliland ilaa inaan ka yara 7 jirka ilaa iyaka ugu weyn uu ilaalinaya nabad baa jirta yaana waxba ha ku sastina hadii qof meel ka hadlayo qof meel waxyaabaha jira imika dalka gudihiisa ka jira cabashooyinka aad maqlaysaan hadii jeer waa wax waa wada hadal iyo wax la isku dilayo maaha Somaliland qof kasta oo xukuumadii jirta ama xukuumad kasta cidii cabanaysa ama cidii tabashaday jirto gogol bay u fidisaa wayna ogasha mid kalena way idin sheegay Somaliland qabiil iyo qoftoona marti uga mar haduu reer Somaliland cidna marti uga maaha waa Somaliland isaga Somaliland isaga midida daabkeeda qaban kara isaga cid allaale cid marti uga yahay ma jirto marka cid wax siin kartaaba ma jirto qofku hadaan cid marti uga ahayn cid wax siin kartaaba ma jirto qof waliba isaga haysan kara isaga midida daabkeeda haya ummadu waxa weey waa ummad walaala waa ummad wada dhalatay waa ummad isqancisa waa ummad isu tanaasulka badan halka waxaan ku soo gaadhnay maalin waxaan xusuustaa Mareykanka anagoo joogna ayaa waxaan oo yimid madaxweynaha qaranka hadda soo gudoomiyihii kulmiya dabeetana su'aal baa la weydiiyay wixii dadka magac afka Soomaaliga ku hadla makala waa isku mid waa dad isku mid ama xabar ha joogo ama Jabuuti ha joogo ama Hargeysa ha joogo ama ha joogo muxuu ahaa Gaarisa ama Jigjiga waa dad isku mid laakiin madaxdooda kala wanaagsan waxay xilligii uu tanaasulay la yiri 80 baa laga gelikii hore la yiwaad heshay gelikii dambe la yiri 80 baa laga helay dabeetana uu halka ka baxay uu ka tigay wuxuu madaxdooda kala wanaagsan aniga markii la yiri 80 baa laga helay dee ummadayda u tanaasulo halkaasaan ka baxo way iska dhaqaaqay dadkayga u tanaasulaya madaxdooda iyo dadkooda ama madaxaada madax dhaqameed ama siyaasiyiin ha ahaadeen reer Somaliland way u tanaasulaan waana og yihiin dadkooda waana lixjala kaysa waana ka naxa marka cidayna dadka reer Somaliland degan guud ahaan meel kasta jooga gaar ahaan reer Orwa haka warwariyaan idinka gelin nabadda Somaliland inay furato in dhibaato ku dhacdo xukuumadan hadda aan ka tirsanahay aan ka tirsanahay madaxweynaha uu marayo xukuumadan waxa weeye wax badan bay qabatay waxay qabatay idin sheegmayso inta waa la sheegaya waa la idin sheegay idinka ay tahay inay sheegtaan oo tiradan xukuumadda waxa ay qabato idin sheegmayso xukuumaddu wixii ta ilaa waxa mashruuca ugu weyn waxa weeye mashruuca wadada ceer gaabo iyo isku xidha iyo muxuu ahaa burco mashruuca labaad ee la rajaynaya kaas markuu dhamaado waxa weeye ka isku xidhaysa Jabuuti iyo yana wadada dheer waa labada mashruuc dalkeenana hadii labada mashruuc ay socdaan oo inoo hirgalaan waxaynu noqon doonaa hadii Ilaahay yiraahdo dad isku tashaday oo Ilaahay mooyaan cidna u baahnay qofka Ilaahay haduu la jiro Ilaahay wama yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh haduu qofku Ilaahay tala saarto oo isagu aanu isdulmiin oo dulmiga iska daayo oo qabyaaladii iyo qulunkii uu ka Nabi Maxamed alayhi salaatu wa salaam kulli 400 sano ka digay aynu iska dayno oo qabiilka la isku kirtaas garanayo la iska daayo oo qofku haduu wax kirtaas garanayo ama siyaasadda xukuumadda kale waa la kirtaas garan karaa waxa weeye xukuumadda waa oran kartaa xukuumaddu waa caynka shakhsiga laakiin ma kirtaas garan karti shakhsiyadiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa xooga dhig laakiin waa oran kartaa xukuumaddu waa sida waxa looga baahnaa waxa ma qaban waxa looga baahnaa adaa tiro baashi reer baa ku batay oo reerka caynkaas oo baashi qabyaalad loo lugo reerkina xaasidin bay noqonayaan kayman doonana xaasid buu noqonayaa wadankii dabeetana waxa la tabansanayaa ma jirto ummaduna saas u baabaayso marka waxaan hadalkii wuu nagu dheeraaday innaga qurba joog baan aniga laftaydu qurba joog baan idin laahay waxana ummadii gudaha qabatay waxana ummad innaga leeyahay doonay inagu waxa hadalka marka gudaha marka tagto
iyo marka halka joogto anu beriga hore aan Mareykan joogi jiray waxa uu ku qoray waxaan meelaha ku waxaan moodi jiray reality wax dhaban moodi gudihii markaan tagay wallahi haddaan idinku idhaahdo internet ma furin 2 sano aan joogay iminka Hargeysa markii aan Mareykan imaan internetadii baaray laba ku mashquul marka stressful noqoto ee aad meel qol yar soo gasho internetku ma ku mashquulaysa dabeetana wax yar oo soo geliyo baad gun moodaysaa qaylaad ku waalanaysa qolkaagii yaraa iyo adiga iyo qayladii iyo qabyaaladii iyo bayaantii markay soo ka tagaan waxa way ciriiri iyo caro dabeetana waxa oranaysa war hebelow $100 ama caaqil yaraad ogeyd $100 ma ku soo diraya shir jiraayad qabootiid waxa oo waxa taray oo diid waxa oo ka soo wariyay marka waxa inaga laynaga raba war waxaanu nahay dadkii aqoontii ummadan aqoontii dadkan aynu nahay dadkan halkan reer Soomaaliland dadkeenu aqoon ma leh kun baan idin sheegaya aqoontu way ku yartahay qofkii halkaa joogay ee la rabay inaad adigu aqoon noqoto oo aad waxtar u noqoto haddaad shir sharaaido iyo qabyaalad u dhoofiso waa khatar waxa wanaagsan aan u dhoofino oo aad aqoonta aan u dhoofino waxyaabahan aynu ka aragnay dee dhulkan galbeed iyo ilbaxnimadan aan u geyno oo dadkeena ku contribute garayno qabyaalada waxba ma tarto waxa allaale waxay taraysaa ma jirto waxa weeyaan ku contribute garayno dadkeena la sheer garayno waxa wanaagsan la sheer garayno aqoonta wax tusno iminka haddaad aragto markaad joogto in kasta ay ku maagayaan markaad Hargeysa ay joogto ay qoonay oo ku joog xun haddana markaad wax u sheegto wuu garanayaa inuu qaldan yahay qofkaas oo dilatana uu qaadanaya laba casho markuu ku diido maalin saddexaad wadada ku ridaysa marka tiro waa ka daamuuska dhulka ku tuuraysa ka daayo meel yar oo leexsan alween hadana baashi trash kan hayn meel yar ku tuur maalmaha hore maxaa ka galay tiyo saru tuuro oo si cadoodo maalinta dambe wuxuu sameeyay waa lagu leeyahay waxa laga yaabaa inuu meel yar saaqeed yar la doonto meel yar ku tuuro marka waxa la rabaa idinku dadkeena halka jooga dadkaasi waajibkooda way guteen nabadii bay xireen oday dhaqameedkii iyo siyaasigii waxa weeye nabadii wadalkan iyaga xidhnaw lama inaanhayn waxa laale waxaan la haynay iyo shuqulaynu ku nahay markay nabadan iyo waxaan sameynayeen ma jirin waa waynu qaxaynay caruurteena afka ilkaha ku sidanay waynu ordaynay waxa laale $100 ay u diro qof muxuu ahaa sokeeyo ah oo ehelkaaga mooyaan waxa laale waxaan ku contribute garaynay nabadooda ma jirto iyaga qabsaday innaga waxa laga rabaa dadkan inaynu bixino qabyaalada ka masaxno wixii xibdiga iyo xumaanta iyo waxaan ka masaxno waad ogtiino meeliba meeshay ka qabyaalad badan tahay xitaa Soomaaliland markaad eegto gobolka qabyaalada badan yahay uu haraa gobolka qabyaalad badan yahay uu haraa waa run way waa taas waa shay kuma jiro waayo dadka wada degan qabyaaladuna limid male yaana ma aha qabyaaladu reer hebel iyo reer hebel qabyaaladu intay meel isma taagto way socotaa sidaas ay socotaa ilaa ay tagto odayga labadiisa islaamada ay tagto halkaas isma taagto bahashu marka waxa weeye qabyaaladu waxa weeye dib u dhac mooyaan yaman eega waxa weeye qabaa'ilkii baa tawaaqi wata halkay marayaan eega waxa weeye waxa la inooga baahayay ummadeedii waxaan u qaban karo iyagu way qabteen wixii looga baahnaa innaga waxaanu qaban karno aan qabano oo isla barbar taagno oo qofka han leh han siyaasi cid u diidi mayso shakhsiga iyo muxuu deegaan haddii qof iyo han siyaasi leh qof caay karo oran kara kaas uu iska hadlay ma jiro ka sidaa yiraahdana isaga iska hadlay ka yaa kaas uu iska hadlay nin halka hankiisa taago yiri han baan leh waxaan aan doonaya sidaan aan doonaya waxaan aan qabanaya qodaxdaasan ka qaadaya ummadda haddii la doorto aniga qodaxda halka taalo qodaxdu arkayo laakiin hadduu yiraahdo indha waxa yiraahdaa wadada marka la dhisayo Hargeysa qaad waxay ku oranayaan dadku wado uma baahna iyo dhismo la dhisay in dadka la dhisaa loo baahay dadka sidee loo dhisaa dadka ma lacag baa markaa lagu buraa ma qofkii waxa la yiraahdaa waa lacagtii wadadan nin baa dacaadiyo wuxuu yiri suldaanada loo yiri lacag la siiyo xukuumadii hore waxbay siin jireen markaasuu waxaan haynaa waa wadooyina wadada baan ku siinaa mata gol janaab cunaysaa mata teebad cunaysaa la wixii waa wado iyo iskuul iyo waxun baa lagu qabanaya marka inta teetaa doonaysa inaad cunto waati waxa weeye marka ummadii sidaasaa la rabaa annagu ka xukuumad ahaana dul baanu leenahay cayda waayo waxa weeye xukuumadda kulmiye waxay xaqiijisay waxa dimuqraadiyadda la yiraahdo waxa weeye waa lagu caaya sultaankii intuu halkaas soo fadhiiso maanta waxaan arkay qof ka hadlayay Soomaaliya waxaa ka hadlayay Soomaaliland
سلطان كاو قبائل كي السلطان ما دي واحد وشاكين يعني سيدي الدولة ده استراتيجية وعلى الشيء ده لو كان لقى مقدي كرو أو غير كي بتجيدي مركب وحيابا نوع عاصر نوعية داس واحد استقرين كرو لا أقبل كرو ما يدينكو قربتشوجي أقوم ترى هباتي تذكر منتالة تقالي هكو تاجرنا تلكي نوحبا كدوجن شيدال با كدوجن ومعدن با كدوجن وحل با كدوجن وغني كلونكا حتى waxay u baahan dadka kalluunka inaan training garano aan tababarno xamar baa laga keenay jiray kalluunka hargeysa lagu cuno waa ka dadku dhawadoogi xamar baa wallahi laga keenay hadaa wax xogaa dad midhan yimaadeen waxaad arkaysaa oday xeebta degan berbere iyo dee marka lama lug hayaan sayr awada qamaxiis xeebtu jooga arigu ku haysta kalluunkii oo intuu soo gooday dibadda ku baqtiyay ayuu bakooradiisa saa ku leeyahay waxaya laga celiyo fadhiistaa ku marka waxa weeye kaasi wuxuu u baahan inaad train garayso oo aad bartos kalluunkan inuu yahay ka mid yahay wax soo saarka iyo waxa wanaagsan iyo hantida uu haysto oo loo baahan yahay inaanu gaajoon markuu arigan haystana arigan cuno marka abaarta dhacdana uu kalluunka cuno oo iib geeyo oo uu ilaasho oo ka ilaasho xitaa tuugada iyo muxuu ahaay iyo dadka kale illegal fishing-ka sameynaya meelaha kale ka imanaya ummadeenu training bay u baahan tahay waxaan idinka codsanayaa qurbajooga weliba qurbajooga waa kala yahay qurbajooga reer Canada waa qurbajooga runway waa qurbajooga ugu wanaagsan qurbajoogyada reer Somaliland meel kasta ay joogaan qurbajooga ugu wanaagsan wey qabyaalada ku yar tahay wax bartay dad aqoon la jooga wax bartay way ku yar tahay qabyaaladu marka la eego dowladda America way isku wada qaad dowladda America way fiican yihiin laakiin marka Yurub tagto bahashiyo geysane waa waxba baran oo sideedii ayaad u tagaysaa oo dadkii aqoonna ma leh waxa weeye ninkii tumiga ka tagay waxa ka tagay turub uu ciyaaray qofka halkan dowladda America jooga uu shaqaysanayaa waa qof qiyam leh oo nool oo shaqaysanayo soo kaco shaqo tagayo soo noqonayo xisaabtamaya halkaana waxa uu seexanayaa turub uu ciyaaraya habeenkii oo dhan ama jin qaad uu cunaya habeenkii oo dhan turub baa loo ciyaaray dabeetana wax kale laga sheekeyn ma tii uu la soo dhoofay ayuu Yurub la jooga iyadoo sideedii uu la taagay halka marka walaalayaal waxaan ku codsanayaa aqoonta inoo soo dhoofiya ilbaxnimada inoo soo dhoofiya waxba ma jiraan dhulkii ha ka warwarina wax dhiba walaalaheena Soomaaliyana waxaan ugu ducaynaynaa Ilaahay inuu taa aynu haysano mid la mid ah siiyo Ilaahay inuu siiyo innagana inoo siyaadiyo oo innagana quluubteena iyo qalbiyadeena waxba ku kala duwanaan karnaa xisbiyadu Soomaaliland waxay ka ku gaadhay waa asxaabta xisbi weey waayo haddii xisbi ku jiri lahaa wuxuu noqon lahaa waa dictator waxa weeye waxba ma macnaanayo haddii xisbi kaliya jiro oo sidii xisbigii siyaad bare ay qoladii shiribtay tiri yahay nin jawhar baa waxa la wada codeeyay dadkii waxay wada codeeyeen maya waa haya maya ay wada codeeyeen markaas casarkii markii la yeerinayay baa lii boqolkiiba 9 iyo badh waxay u codeeyeen ha markaasay shirbeen qoladii halkaa joogto waxay yahay nin dooran maxaa doorta noo dhehdeen wuu iska dooranayay ama loo codeeyo ama loo codeeyo waa dictator marka dictatorkii de waxa way wax macna uu sameynaya ma jirto ummadana uu lugoynaya xisbiyadaasi waxay xaqiijiyeen oo ay xaqiijiyeen waxa weeye waa jiritaankeeda ninba habeen dhowto nooga sheekanayay madaxweynaha Axmed wuxuu yiri ilma ay qabatay waxaan BBC-dan furay oo markii codku socday islaam weyn oo haday ugu yaraato 9 jira ayaa tukuubaystaa markaasuu foodkii waxay tiri hebel baa u codeynaya waa ku rid markaasuu ninkii way codeysay Faisal bay u codeysay marka BBC-da baa saar markaasaad yacni adduunka dadkii joogay oo dhan baa surprise boqol jirka codeynaysa meel aan la ictiraafsanayn ka codeynaysa aan deere u hirdiyay cid allaale wax dhib ah oo ay la kulmaysaa way codeysay leeyahay oo la sameeyeen fraud iyo midna la riixayno islaanteeda soo dhuuqiso ay oranaysa waa kee hal meel hebel igu rid adigu oo ilaahay waa kan xisbigiisii baa jooga marka taynu ku xaqiijinay aynu nabadda ku haysano ee walba xisbiyada weeye waa xisbiyada haddii xisbiyadaasi meesha ka intiisna waa jira xisbigu intiis buu leeyahay wuxuu leeyahay sharci xeer hoosaad iyo xeer qaran baa jira iyaguna xeer hoosaad bay leeyihiin qarankana xisbiyadu xisabtu xeer bay leeyihiin haddii xisbigii uu naftu intay ka baxdo caro uga baxdo muxuu ahaa mucaaradadu ay intay madax marto dabeetana uu keeno in dalkiiba uu khalkhal galo dee waxba ma uu kororsan waxa weeye wuxuu wax kordhin karaa markuu yiraahdo dawladdu waxaana way ku qaldantay waxaana
kuma saxna waxaasay ku wanaagsantahay oo dabeetana annaguna waxaas fursadaha la eegtaa fursadda inuu ka faa'iidaysto wixii fursadana gurto oo fursadana uu gurto wixii shara ee dhibaato ay keeni karto mucaaradadiisuna uu gacanta ku gurto oo qalfiyo oo yidhaahdo waan waxaa uma baahnayn dalku naga burburinaya laakiin asxaabtu waa waxaynu u baahannahay waa waxaynu ku jirro waana wax loo baahan yahay ilaahayna waxaan ka baryayaa dalkeenu sidaa uu u socdo iyo si ka wanaagsan uu u socdo ilaahayna ma garanaysaa waxaan ka baryayaa quluubteena iyo qalbiyadeena inuu isu soo jeediyo bahashan qabyaaladana ay naga tirtiro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi المدوبة وحربا إن أصعب روتنتا وحنا أركي إسلام شوغا أقسمين دي جود دور مهود الشقية وحنا أقسمين جود وسارة الدوليس في هوادا أحمد محمد فارح طلب وأقسمين اللي شوغا ومرتينوها شغنا وصامنا waxaan ilaalisnaa waxaan la joogaa gudoomiyaha xisbiga ucud xasan cabdilaahi haystaagaduu joogo madaxdeena maanta wali dhannahay iminka waxaan rabaa waxaa kaloo jira iminka website live u duubaya oo cabaasmedia.com la yidhaahdo qofkii doonaya iminka internetkiisa dee ka daawan karaa waxaan jeclahay inaan 1 minute siiyo aliga ahaada waa barnaamijka إلى ومن سيو دكتور عيو أو هل دقيقة إن ميكروفون كم سلوي دكتور زوبرز سلو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت هو يريعي وحان جعلها إن مقع صاحبة سومالي الله أنا قال الله إياه ومعي إلى حسن عبد الكريم عيوب المدحوين وحقين كذلك الصومالي لا يوفد قوته أن كسر دويو مقالة أوتوا نتحكت وحنو ما نقيا كواحد أمام كان قيمها بدل صبيسي إلا أنتم مدحوينه ذلك نلجوبي إن reer Ottawa ay ka duwan yihiin dadka kale walaal madaxweynaha ku-xigeenka waxaan u sheegayaa in ay gabdhaha reer Somaliland ay haldoorka koowaad yihiin marka laga bilaabo safiiradda Lula gabdhaha ka shaqeeya Ottawa Somaliland Community Service dhammaantood waxaan kaloo madaxweynaha la socodsiinaya in gabdhihii ugu horreeyey ee la siiyey furaha magaalada Ottawa ay dhammaantood ka yimaadeen Somaliland oo ay ka mid tahay Shuun ay ka mid tahay Sacdiya Nuur ay ka mid tahay Zaaraha Bare oo ay ka mid tahay Shuri Dirir Jaamac oo xaaskayga every great leader, there is a great woman behind. Inta haddaan uga baxo mahadcelinta munaasabadda inteedii kale horaa looga hadlay waxaana ku soo guraanadayaa mudane madaxweyne ku-xigeen waxaad ogaataa dal ilaahay jecel yahay oo xagga samada laga aqbalay inaad madaxweyne ku-xigeen ka tahay dowladda iyo dadka shacabka reer Somaliland waxaan hubaa inay gaari doonaan meesha ay jecel yihiin waxaan kaloo idinla jeclaan lahaa madaxdiina wax maamusha nin walba inuu gashado shaatiyada magacyada qabyaaladda ee dadku ay qabaan inaad يعني كل رقم نقطان غير ولا مشوا الجوات كم نقطان أضوطكتان له يتان حالة دوغاتان وأنا أرنتها يلا لفظ يصل هو كان كيلو حجارو مقالة قول يرا وسيدته كيلومتر وجرته أيربورك بوصاصو هو كان كيلو حجارو إلا حنقلون براك تقول إيوه
انت سومالي لان كونفورت الصومالي اللي هو ذاكتو waxaan kaloo idinkaga digayaa anigu Soomaaliya ka socda dadka Soomaaliya maalintii midnimada ayaa la idin khiyaamay mar labaad ayaa la idin khiyaamayn waxa aan inta u leeyahay wax kale ma aha Soomaalidu waa dad calool nugul waa dad cafis dhow إلا يسعفيها وجدتها لكن إن الحصوص طويل صار الصومال يدبك أيام مهم وحنقصه قرانا ذي مدحويني ما ملكينا والدين الرعسنا هاي أنا وصاحب الصومالي لما كتر سنة هاي إن الحين الصومالي قبطوا صومالي حتى أن كسر جدنا حين قبط مرة أنت صومالي لا قاعد ترافي دكتور كأني ودكتور حشيعيو وحن إنتانا نويل مدحنا كحجينك وحن نويل يا لول والله كلمة إنوران ضمتها لول سلول وقت قوي نقدر وياهاي وينو قبل دونا مدحوين كحجينك أيه نحرية أنت أنا مدحوين كحجينك كسر عسبين وحن دوني إن ندي شيء وأنا سر أطول هذا هاي مدحوينه هذا يندقي يستنا وحبك ما قبنا community جيني سومالي لا أطول أنت أسبانو لاجنا هاي ترى أنت لما أنت كنتشوف مسطح بقول كمان على كم يعني community جيني وإن لهلا ضد إنتالك أو يسوق صباحا أو باركيسي دبوا سمايا أو ماشي ودقة يتبقى فيرسدا قدي كمل جارسيس أيام وسمايا نبردوي قدي كمل جارسيس كي وصعد كذي سدا بفلين ما ينقلن marka waxa idin sheegay inaad ka digtoonataan oo ogaataan oo ka war haystaan oo isku soo baxdaan oo guddi jidida u sameeysan oo istaaniski community-geena aad dib u habaysaan ma ogi inuu inala joogo Dr. Aadan inuu halka ku jiro ma arkayo ma arag laakiin waxaan idin sheegay dad badan oo ka soo qayb galay baa jira waxaan idinka rabaa in aad u fiirsataan oo aad u soo noqotaan oo aad hagaajisaan community-ga yaanu inaga xidhmin يعني النجاح النوايا فائدة بدل بنوية هاي ويسوكين يعني وين كرلو ما ينهض الكوميونتي كاسي نقلهم مركزات ديك الشقة يسال هذا اللي يربي نوبة هاي إذا الله أنتي دوري إنك قصة involve كرودو ولا يدي باهية قاعدين لو باهية فكر كنا لو باهية إن أنا سكوت حدير سلام حتى ربطان community قال إنه هذا شيء تاسوابه بدل بعدين دوري وحوي تبدل كل قصة عدية ديارته قاعد وياه في سنة أنتي وصومالي قصة صومالي أنت قصة marka ay tigil goosanayaan waxa laga yiraahdaa fiisihi Somaliland waa ina soo qaadataan Canada ka qaadataan waliba dadka travel documents ka haysta iyo dhalinyarta citizen-ka ah ee 25 jir ilaa iyo 18 jir ilaa iyo 30 jir u dhaxaysa hadday xitaa citizen yihiin waxa looga baahan yahay fiisaha Somaliland inay iga soo doontaan internet-ku waad ka helaysaan gaalada baa ku joogta بايصاد دونتا أو إصاح يشوف في سجى قاعدة إنترنت هو كشرة مقعد وقت كهليسان إيميل كده وقت كهليسان وإذا صعد سنكرتان لكن إنترنت تقدر تقول خسارة because Ethiopian Airlines قاعد ما يصو ده travel documents تان أن في سنة سيدنا الصومالي لا تقصده بركاوحيا كرنا يسافر دوفيا وده قول كايس جارسيا سيدا سان السوق نهاي إمي كنا وحنا علينا يا ميكروفون كأحمد سعيد مدحوينه كحجان وقصو دوي Somaliland هنولات Somaliland هنولات بليستانا وحنو يا إيمنك مدحوينه كحجان كجمهورية Somaliland عبد الرحمن عبد الله إسماعيل شرك مدحوينه كحجان كسرو
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مغنيال يقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنت معروتي أنا يوفتي أنا وقامني فرحت وين آدي نوع سيد الشرف طلع يحب الله وخبر الله سيد ولا سلوس أقاسمين الروت وأقاسمين أردت أن أفرح الله وخليها من هذا القوة نجبهه آدي أدبرت مركوين حملين يا إبان أورت محله عند كوباد نقول الله قبلنا بسوكي كهذي عفمات قبلنا هذا اللبنا كنت يسوق من قبل سنتي بتري سيدك هوشوا على النوع كان نوع قبل كان ضغط وما أدري ما نقاله كله هوش البوي مناطين أنت خلاه بكرة عبا كنت أكسر كمان جودها هم اللي ودريا لما جاء دري أطوا الرئيس الملأ كدقن السيد الشرف طلع وساق ستين لهون سود ويسي مقالة ضخمة في كندا waxaan marka leeyahay inuu soo baxay oo array dalkii maanta soo maqanayn oran karo saddex toddobaad jarjar ka soo maqanahay in asumada ama macsuumada dowladda casuumtay oo official ma ahayn ee waxa aydan jaaliyada reer Soomaaliland iyo qoyga America inaan u soo warramo xaaladooda soo ogaano maadaama walba joog yahay la dhabarta اسمها سومالان مدة أفراد سنة رنتي نوال بيت طلعوا طريق ونوك صدري كوير وحبقى من الدموك في الدين كم بدأ في سومالان وحقمت ونرش وحقوا طريق كي كلام خلينا نوك صدرنا وحلو السعودية وحقوا طريقه ورئيس كم بدأ هبقول عطك بدها لقيس تعطنا والبجوك ولا نورت المدرسة سومالان waxay qabteen runtii waxa la qarin kara ma waasal la sheegay in kibiriyaha runtii aad faahfaahinayeen di jaamacadaha ay tahay haddii ama diblusi ka tahay haddii maalgashi dadku sameynaya tahay haddii aqoonta iyo maarta iyo waxay ku soo kordhisteen iyo waayaanimada ku soo celinayaan dalka tahay inta marti baadiyad baan ka maadnaqaynaa taasina waa keentay anagu muhiimadda saarna barigaan xisbiga qurdiyahan in hay'ad qurba joog sameeyo هيدا بجوكرونتي بعد مدير نجار اللي لكن سواء توصلنا إن شاء الله ونحوجينا هيدا بجوك كور هيسا وكحران مارتين وزارة الربا كذا لاين مستر أيام يا جرتا دوما كي مدحولين تلاها كيجوجي ومقعد بدوبيه هيدا بجوكا مناط الزين تحت الفيلم روسنيي واحد قال مين كون أنا صق عنه هو دينا تذكر هو رمضان كيف كتيرة iyadoo warku sidii hore deegaanka ay taa waxa uu taan ku sheegay wadku yahayo global village ee noqonayo caalamkii maartay meel wada joogo caaw wixii ka dhaca hargeysa iyo laascaanood iyo buur meel ka dhaca bacda saacad gudaheed cid walba ku akhrisanayso haddana hawlada ninkii socotaa oo warrama waa qasab sidaa la sheegay dalkii nabad buu ahaa guud ahaan waxa dhacay waayo إسرائيل سيرة ونعاد وضع والبور وضعني نجوا وين ما طلعت راسيو كدعان لكن زمان تا حالتها يقولوا اللي بعطوه ده ما في بجرا كنتي نقول سيرة توا تاين خوفنا مانتا وتاين نوع اللي هاي هذا الشيء ليش كي يوم درسوا ما ناس كده هاي بدنا نوصل في سهيل وبناء ما واحد يسوي لي هو طريقة ويعدون يسوي لي هاي هون الشيء كده ما طريقة ما كان نقول تدرك عاد واس هاي marka waxa laga yaabaa in meelaha ugu yar dhibta badan ee bariga laga yaabo dayr gacan fuliyo qodob bariga oo laba heer isku yaacaan ciidan qaran aad u fiican baa leedahay daqiiqadaaba kala gaara inkastoo qorisdeena kastaba ka awood badan waxaan dhacday mar intaan joognay maanta waddan u adkeed waxay maray wasiirka arrimaha gudaha iyo ninka wasiir dowladda Axmed Garab joogiyo ay ku maqleen laba toddobaad dee laba jiribo walaalo shaytaan ku dhex daray يعني واحد اوكي ده افر شنق في الاخر فلتين وضلك ويروحوا حتى لما كانت دولته ده ودنا هنا كل جوج انه كده كويس بالغريسو ده يعني ودخل بتحسب بدل اذا كان ويروتيو هذا ما تي ده وما صارتي هولا اللي كجرا
يا نحن قفل بقول ستالك سامع جوجي مركب واحد على ما نجيش كيني إنه رجال جرو لما تجرو قولي عندنا نروح ستا كيلو كلنا عندنا دبان على كذا بان على رسله ولا قلت له كيا يا خالد مكانك عسكري كذا وارد خوري لو مار خيبة إنه كنت تود سيدو كده كيا بار إنه كنت تود كده واري إلا نودي تقولوا قولي اسكسو حرسو وكل ما نسأل عسكري أول برس يروح أنت خوري ست ما دامش اللي كان عليه ولا قلت لي بقى كنت لو كيلو ده يدعنا كأغنى واسع شيء هو الوفرة ما تو إذا كنا مهيدين أملكوا وكفرين ينطق مرتين وهي ما يدعنا كأغنى يبدأ يستمر كريان وأنا أنا لأني شيء عسكري كل هو هي أمضوا سويس مالا جيس أيوه هذا هاي نسول نحكي لك على الكيس نسول نحكي لك على هاي عد كستوقع كانوا تشدوا شيء نسول نحكي لك على هاي نروح نحكي مرة هاي أمض أو جريسان سلام أول جريسان هاي بالكلية حتى وحياة برا هو أول جريسان هاي حاجة لا فضة وحياة برا واحد ما قصده أو واحد هو حاجة ما خايف تناقش كان يوحنا لكتو سلام بالكلية أول جريسان هذا دعاء من هرب روادك أو ولو أنت كسكية نقل كي وقتها بيلا علمي هذا الشيء أو هذا كسبوه يلمو شيء دميو إنه بكم واحد دمينه بيها كدمينه عاجة أو كوكا كدمينه وسلام سووا تورنا يبقى كوي أروتي نقول بجوجي مادان دواء ما كل أقل إذا ما كل أقل شيء ما كل دميونا يمثل السيد يقعد سبحانه وأنا سكتور بالله يحصل أو ماشي تقول ذي بورد إلا وأكمل نقول له مثلا ماشي عم نقول ذي سكتور مركان تدق وهسه كم تايدك ويا بالله لو أول كريه الله ما تلا مري الجلا ما كتبناه رنتي أنا وفاني من دولة كسوس معنا صورتين ده واحد هو ورجال سكولي بيوين دولته واحد وطرفنا يا بحس كده بس يعني أنا واحد وياهم أرجع مارتيس إنه يغير كل ما وصل وإنه بس وحق قبريه وما ترتب هيو مركا دولة كسوس تو صورت السمالة واحد وين قيمت الأسواق عطوس هو ما واحد ربع ترى مويان وما ترى مرة وفعلت تريمي مجرته ولا كان أول ولا كان أول بري ولا كان نصيب بري وقدر كان بري ولا مقدرين عشان لي مثل جوتيروتي أنا وصل ده واحد لقرتين أختي متعودين نعجل أنا روح أستأ ملوها خوش الله على صوم مري ذاك السومالا نذبض واسي institution السومالا ما تيجي هاي إلا demoralization كاسي أساس كده كل يوم كي يضع ديارية ومقدر كسر قاري كي بلمن كريه دورشوين كاين لأنه ما تلاقي يعني صورة كلا صورة كلية تصور دورشو وإن دير الدين أو طبيعتي دكوي ما تسي ونكسر ونفرق الدين ما كي دورشو لو كان هذي وريجي وكوينه وحيابها إنه كنت ما تي نويا لما عالم ما تي كي بينو أنا واحد من المكان واحد من الدولة هو مركب مقنون ما دي تركيا النساء دموغادي اللي هيجي إن أنا واجي وأنا وين دموغادي السيوح يجينو اسمه هو مركب يصوم من المكان مركب سوى المرة صوم يبدأ وين أنتلها عالم كأنه دجاج كمان أما الدولة ده نقالها على ما دام إنه الاعتراف سليم وحياهم بدأ بيننا نقول هين أكسسوا لهين وويل بانكي IMF دي وحياها دي أفريقيا ورسية أيام كهرام ما حيوان نقطين وحين ير أنا سكوت رشانو وديان عشور ثيان revenue collection كيسان هي جنو وكان ده قليل هلا مكا خربك السنة كرام هدي خرم الله سميه أو قليل عتكيو ده أمني كده وسياط كان مرة مكا طبيس تاسوها كانت مكا قليل كل حجيو ده بيننا المشاريع كل يوم اسمه على سميه مرتين هي وساندية هي دي داخل بالي وجري وسا سمانتا ودويك لا نسو هدي تا ود دibad laga u baahatay hadi ta wadooyin gudaha oo xoojinay waxa wada qabsiga dadweynaha iyo dawladda dadkii isma dawladda iyo dadweynuhu isma amisaneen waxaan ka shaqeynay dawladda hoose aan ku qasabnay inay fahmaan iyo shaqo lacagta canshuurta dadka qayo ku celiyaan isla markaana dadweynihiina ay kaashadaan taasi waxay ka tahay maadaama municipality awood badan oo lacag badan oo dawladda istaagay
inay dadweynihiis kaashadaan oo dadkii maanta nin walba oo caasimada degani xaafadda ay 200 qoys degan yihiin iyagaaba qolo walba istiraysa lacagtii waa urursanayaan waxaan anagu waxaan haysanaa lacagtii intaa laga haysanaa dowladdu waxaa laga yaabaa noo sameeyo 140 soo diyaariyaan 150 soo diyaariyaan intii kale dowladdu soo qadaraysa taasi waa keentay in maanta magaalooyinkii waaweyn ee ahaa mid walba dee wadooyin ka abuurmaan waxaa kale keentay dad horumarku dhaqaalo in dee shaqaalihii la tayeeyo mushaar loo kordhiyo darajada ciidanka la bixiyo oo muddo dheer ay maartay sugeynay oo askarigeena maanta iyo janarka xukuumadda aynan isku darajo ay maartay kala sarreynin maanta sharaf iyo qurux leeyahay sidii la yaqaanay dowladdu waxay khadin jireen hebel waa la sheegay taliyaha qaybta gobolka Sool gaashaala dhexe ama gaashaala sare ama gaashaala loo dhexe awla taliyaha qaybta meelheblaayo baa loo dhexe wax darajo la raacay ma jirin maanta darajadii way ku taxantay booliis iyo military iyo askuba waxaan ku xigay taasi inaan markasta aan aqoonaysan Soomaaliland oo iscaanaynaa inagu oo inta wada hadlayaa oo wariyaha la xidhan la oranayaa oo qofka qatan la waxay la oranayaa khalkii inta badan uu jiraa oo dadkiiba inta badan wixii fahamsanay wariyaha wixii fahamsanay hadda la aqoonaysan Soomaaliland waa dowlado badan oo la ictiraafsan yahay ayuu ka sameeyaa oo mid aad weyn ah weeyaan maalmaha ka mid ah waxaa la dhisay halkii loo jiray نسوي قناة الجيزة تروتاي الرجلين من السيدة والنسبة هذا قال يا دولة إنجليز كروتي مع وضع مو بدر أمريكا دولة النجاح وصلوا وها دولة إنجليز ما كان ماشي على اسم نسبة هذا قروح بدر وهو وحليعي عاركة investigation وسمية بارست الفرحة يوجه يقرب بحر بدر أيام وسمية يو لوكي لو حريه خطرتها ودسري لو إلى اللي محوس كه نرفع عونه لاني لو سبيه ما أنت فوري نبي يقول نيجي قال كإنجليز وحنا تطبيقه تفضل أفريقيا شغالين أقولي سمعنا لو باش روح وقال الإنسان في يعني إن هاي بولي إن دخل لا مارتي لا ترجع كريه سمعنا وحنا لا ترجع قفوا على حريك أنا لكن سقف لا ترجع كريه بياف كلو كليو دخل اللي ما يجي أقول لك أنا ليس كوا على ميو هراي نصر بطبخه ليس كان أنا ما خاصة إحنا صوم مريبا كمان نقول خنا كنا ما تقول ابتسام كراني ديمقراطية يدور شوية مرة بعد يوم أنا نقول ديمقراطية كوعينو وذو يديروا لو كنا نتوكي حسب كذا ما خلينا إذا نقول باقي إن فرنو وهذا مرة فرنو وتحت الرسول الله قالوا ونحسبه كل ميانو وجيان بدخليني أما غير ما حل بعد جيد عليه دبا حركة الشريعة كسورة سمية وحده ضرورة موايو مركز الشريعة ما اللي برمت كريه ما لوش قيو وحب عني أمد مدينها وحي ضرورة كسورة حيوها جيو ما كان مرة كيها أروى لفرنك حوالي كوجا مدي داني تشوفي وح ولا قرب ولا فرنك يا لو فرنك مرة كدعي وإلا حقي دمرتي الجو يروح علي مكي أمني يلو غبقي يا وحده وحنا واحد مختبرات دي مرة كيس مرة كأوبهم إنه لك إنه فرنه ما أنت فرنه حين عدوا الأسكوب يا سمعنا تيواتك يا تيم قال والرضا على فرق كلام شن توكي سنة مرة ما كان ما تصدق أورا ما تنصب بحين توسنا بحق يشربها استعلي إنه حسب قريه توسنا كذب مرة ما بعد الله رضي الله عنه كسر ما تعرف بركي ولا يرينه إنه أول ما تكسبه حتى بريء فرنه تطاشا تاسو حاجة متى كوعيتها ديمقراطية أن كوعينني دورشان مرة بعد ديار ملوي هاي هذا واحد الظروف كانتو لا يوجد بمايو دورشان واحد كديار مرة نقضي هذا عاد اللي نقول بعنات هاي أو العتة أو بدن كوبها الديوان قلنتهم قد حياشة iyo doorashada labadaba laga caawiyaa waxyaalaha waxa kale aad looga caawiyaa maartida dawladda carabada lagu ixtiraamo dimuqraadiyadda jirta boqolkiiba 5 naga bixin inaguna boqolkiiba 5 aan bixino marka anagu boqolkiiba 5 tankii budgetka 2 waa ku darnay sharcigii waan baas gareynay komishkii waan naga sameynay haddana dee maanta waxay naga xidhiidhay doorashada maanta 6 Juun lagu talagalay dhacdo voter cardkaas baa dib looga dhigay voter cardkuna dee doorasho inuu ku cararo maayo dee doorasho wanaagsan oo dalka iyo dadku
anan dhibaato ku gaadhay ama inaga dumin maadaama doorashooyinku mar marka dambaysaad moodaa interestkooduna xoogeysanayo waad garan kartaa ninkii waddanka joogi jiray labadii lama fahamsanayn ba anigu raggii councilorskii koowaad kusoo baxay baan ahaa markii 6 warar hore tartameen dee ninka 2 ku qoran ururka qoran iyo ninka 8 ku qoran xisbina uu cariyo interestka fahamsanayn laakiin waxay gaareen dadkii wax wada fahmo dadku waa siyaasi noqdayo dee baasha khatar baa ku galay inuu dunaba marka waa inaan wax helo wax aan ku kala baxno dad tirsan iyo nidaam tirsan la helo فوتركان لانتين واحد مقاس عينا دي كنت إنه ده سوق قبصنا عيد ما خش وطية وظهر لي الصومالية يا صوماليا ولا سعوديين وظهر لي الصوماليا أنا أفرعي وإحنا ولا كعطي ما دام مدب ذا الصوماليا الباب اللي هو الناضي وده ده مرتع بس ده اعتراف كبير راجع والله أنا برضه أخذت وحيوين دائما نقول في الدستور كان الصومال هذا كله على ساعين يقولون شو تكتب إن أنا جدا نمر إنه واحد إن أنا اعتراف كقارنه أو اعتراف كلا المكي ولا له هنا شرع شو تحصلين أكو قرعنه واللي هنا جدا لما قبسن حكم تدور على سكوتي وأنا أقول له هرد يجيبه الرجال في عشان عشوا إن لا يقدر هاي حتى إذا ما فت عليه إنه غبر بوي وحنا وقت حنا كقولة أو دجال كلام دجال سكية وما تخيلوا كسي حوجي ستي ولا بقى ولا بقى على كتير بعد درب ولا يوم قارنه لابد يرضى ولا سيدا ولا شعره يعني مخنا وهو ترى كذي يقولوا ده بقى ما دام إنه عند دقيقة أو ما تنبه دقيقة ما تنبه وهو ما ترى كذا ده كل شيء غير محتاج كيسي هو ما ترى لكن سيدا ما تنا اعترافان واحد عايزين الصومال واحد بغاو ترتيب صوتها إذا بيقولوا ده هيدي لكن هاني صوم بقى وجدنا كلام حلو إنه دتي الصومال كونستين لو هراي اعتراف لو هرا ينعرف لو بطو أو وضع على طول الجيل على طول إن لو يجي أسمعين أو يسكت تجي حسنا ده ممكن لقطة أو توشر أو يبعدين ميديا عالمي ما تولوا هي مودي أو بيشر ما تقول على الصومالية إن الله يكون يكتير الله وضع سكوتي أو سما إن هيا وإذا كان كذي لو من بين السوق الوجودي يوم الله وضع كسر على السهلة توه باسمه إن عارض عندهم دايما صحيح كتر كنا جابيو هو على إنه كان ولا كيلو مسلم كيا نقارع في عين شيء وحنا بعين قريبتي هاي السيو توه جابيو هل كفرتهم وشقيهم أجلس تيجي دورني إنه ده لما يسكون بسهل طالكنا إنه بتجسي استبيرتي سوات كذا أو مدش مهلكليو أو مش خامور يبادو كنا ودي ونس سمعت لما استيجو كواحد إنه جونا لما استيجو كسرية سومالي عمر السنة ودي ونس بيوخي هم كانوا سومالي ناس كاشمالي إنه الدفلات برضه هنا ما أنت واحد جونا وقت ما أنت أود إني أكفر بواثيبك أكفر حسب تاعي ويا سويا يا ابني سوي مبرني بقى عرفتني انت اصجع صباحا الشق كنا عندك كسوق في جامعتنا الشقاوي كل ما انت واحد بدينا وديني كفر بطل رجينا دينا بلاش عارف ان كان لو يكتب وما القش يلا سيب قش قانون رسمي تعالى واحد من الضاين ذا اللي بقول جنا يا عقلان النور تاع واحد كمل اقوى سنه وكو وحكم من الطوع إنه علينا هيو مثل الدلالة القشي اللي سوتشيو تدويره إنه يحب فهم سنينه ماشي وحنا نروح مرة عند قاعدين يابا قيدوا كي يرس أو وضيع ركض تقول لي جوله لا مقال كلام بصراحة قاسي لما معناتها لا مقال كلام وده نربى وحنا سكوا هيستعنا وحكلام ما وفي ما الجريمة ممكن يبادروا وشقاد بالعابيرو وحسب خمسين سكرتيرية دروس خمسين أنت ماشي ولا كاري تبغى سكرتيرية دروس خمسين وقول ما لكاري إنه لما يسوي يبغى بقى أقرب كم تهتان كين الجهل جاء الله وركعسين لأنه بورت معناتها الخارية ومعناتها الخارج كان كم سهولة وهي سمان رئيس سمان الخمسة كارية اللي رئيس سمان مع الكشرية وهي ودنا كبحثا بعد باريس يوم ما تقول باريس هي كاس باريس ده واحد هو يود ده قاله هي قلت له أنا ما إذا هو أفريقيا إنه ما بيدنا الشركة المصنعة
marka dadkeena wax faham la'aantooda iyo qabyaalada kuwaas inay walba soo joogsan tuuladiisu caqabad bay noqotay maanta waxaa leenahay hawlo badan oo dhaqaaqi lahaa oo sidii aad maqasheen gobolada gabeele energy oo kale oo bilaabay systemkii bilaabay oo sanadkii lagu isticmaalo markaa la heshiiyay 2014 baa inay Ferris Exploration welcome yana shaqo u horeeyay tijaabada sameeyaan ma la sugayay la sugayay dadweyne la sugayay marka taa u dheeda de ku jooga in khariir baa jirto halkan uu gaas iyo fikrad ka dirto tirun diida ya waxaan bay marka intii naga joogtay aqoon tare maanta ilbaxi inaad maartay dadkeena jahliga haysto inaad wax wanaagsan oo fiican ya jecelahay marka la burtiis si moodiba lagu leeshiyo dawladda ku leeshisay deela inka loo ku qaracsan ninka halka ka qaylaya wara waxa lagu soo saaray waraari kunaasoo noqdo gaajoorini in wax noo soo baxaa ma rabnaa koga wax soo baxaa bay faasarada ka abuurmi oo wada sameysmi oo nolosh qorqay nolona waxa ka koowa in faasarada isoo wadooyinka isma digaas isma oo la reeyo oo baahay badan hada reeyo maanta la si moodiba macna laga qoraya ku dibad joogo iyo ku kala iska qaylo maanta waa la qaadanaya waa laba qaadanaya waxaynu baahanahay deelis aabino kol bacid xilka haysan la aabino qaranka madaxda la doortay iyo inta joogtay loo daayo wasiir leh madaxweyne leh xildhibaan leh ciido badan hawshu markuu oday iyo ina kasto markii ka taliyo ama yaray lacag bay qaataan qolaas iyo meesha هل توجيه خبرك يسوع مايو فكان واحد مدينه وحنا نقول وحضرنا له والله صغير حتى لو كورتش هذا نقول بعد هذا مدوريا إن سكر ولا قادر مرحبا عدالة لو هرنا سبلا مدوري أتنا بك عدالة لو وهي هنا نقول بس كيس يسوق قاعد عليه هل قال لي تعسلش قيمة صدق مركانو بيجي أصلاً مني هذه ما تاي وقت كان سيهنا waxaan isleedahay wax badan aan diyaarinay iyo maalgashigood aad yani isoo dhaweynay shuruucdiisa sameynay xeerarkii shirkadaha waxyaabo badan aan fasidaysi sameynay waxaan rajeynayaa inay sanaa soo socdaan wax badan qabsoomaan oo ay kamideen badan yimaadaan waxaan moodaa inay intaa fursadaha uu sheegaya dalba waruntii yani meesha ku naala mowqaca iyo fursadaha yaalla ee inoo aqoon lahayn badeena 800 iyo jada kilomitr weyn the fishing industry maanta way la yaabaan marka ugu horanto badda inta leedahay iyo wax kale dadka diido ka yimaada waddanka 100 kilomitr leh oo dhaqaalo ka sameeya badda waa khayr caadi iyo markay la weydiin ka samaysaa waxna budget 6 sidii airbus dadka marka dhalo kalluumaysi ee waxa kale inuu maadaan zero joogo marka fishing industry oo kale oo filaanay hadii dadka doqonoon maartay maalgelin dad aqoon iyo dhaqaalo la helo oo dibadda dadkeena ku baraya inay dadkeena isku ku fadhiyaan waxa la ka garanayaan ma jiro بعد ما دائما تذكر إما كي أي وهوجا شركة عبورميان إنما يمكن بلعبوا خلاص دور شراعي كاس بيقولي سوق وجرا كذا ما كده يقف شيء كلام قال يعني كلام كده فودلو كي يلا تسوي يلا ده بيقولي واحد إيه سهلا بشيء تاو تاني كناس بعدين السوق واحد نايم إن الشيء كي كلام ما كانوا وين ده صوتا تركي سو ساري لما يدي تركي سو ساري بشيء لنا لا بكرة تم صدق كرة تم الغرض waxay ka warar qabaan inay heshiiskaas saxaan ee dadkeena wali fish industry garino kalluumaysi garay waxa laga yaabaa malaha waxa la yiraahdaa masaa'ib taqoom fawaid taqoom bitaawut dhibcid ku dhacday inta faawta malaha iyo today ma nooti ma to qaxootigaas xiro inay wax badan loo faa'iido dadkeena bara doonaan kalluumaysi sababta islaam qolo sanad bay way isticmaalo sanad ku soo noolaayeen إنه وين ذكر يو اللي قبل ينكروا أنت ورجعنا ده أنت كسيد وعطيني نوي مثلا إنت إنه نبرد ولا شاء الله ما هي إنه فيدنا نقط مركاية الوقت هو أنا ولا شقتي سامتي هذا ولا سبتين دارنا عليهم وبتشوف وأنا هاي محتركين أيوه دور تقولي سومالا إنه كمان واحد يكفر داون إن تحسين لللابتان هو كتالله باللابسان إن يدوكوا سكوتوا ناتان مرة كوان وياه حتى يدوكوا سكوت عرفتي أو يدوكوا سكوتين يدوكوا دانا مطرسا هذه قفكي
intii naga joogtay ama waqooyi naga joogtay ama yurub joogtay hadday saagu wasiirku sheegay qabyaaladu la fadhiyaan oo qaybsan yihiin dee qaran ku tari maayaan qarankani waxa weeyaan waxaan xigsanayno muddada qabaan dheer ee nagu qaatay dee qayb dhaqankeena ka mid ah oo anaga soo jiidana yaa waxaan lehay haddaa sida eritreeta laga sheegay ilaa qof walba oo diray $100 oo qaran ugu daro $2 gaar ama $3 gaar haddaynu gaadhaynaa ka dad badan dalku uu dhismi lahaa ujeedadan aan rabnaa maartay inaan ictiraaf gaadhada waa la gaadhi lahaa marka waxaa lagu dardaaraya kulley waxa la khilaaf kulleyba dadka islaam nahay waa cadaab oo walaaka waxa la leeyahay saddex wax ka badan caloomo in la hayso ma fiicna inta qofka yani maanta qof waxa isku qabataan toddoba cisho qof waxa isku haysaan yani waa dhibad tahay maanta in aad heshiisaan waxa dhamaatana waa murtaax baad dareemaysaa oo tacalluq raadaya القناعة راح تعرف يعني قف إنه واحد تحت عدته كلها راضي بس كسي دايو يا دور راح بضل إنه ولي يجيب التعود كتير ما كان ولي يجيب خلاف كتير واحد نبغى شرف والله نبغى ولا سكوا عرفنا ولا قبصنا نيت دنيا وسكوا أفرو بنتجينا أو شرف طبعا ودنا خارجين غلطان قال حسبك وروح يشتغل ده أنت نبي عروتي نبي بريمة تيل واحد وضلنا بمانتينو لك حكومة يوحني وهذا الشيء ترى كان وحياه بدل وناسكي ماتين وإذا بورني إن مدح مستقبلنا نو حبوده كواحد كبدلها أنا كسب حلوة جيني أول ولكن مش يسكت ليش ولا صار وكيل كلمة كلام وحنقول لها أنا واحد مرة التاريخ كشهر بهاي سومالا نو السفارة مرة أول السفارة كل استر مرة حتى تذكر تو حسكي جيو تو حبوا صديق كلام حتى البلدان المال يرى أقل يرى يهدي بسنة تينا جارين الرئيس بلد رياض الرئيس كله حتى شكل شتان وعلى يرى أقل كوان إيش مال على هذه يمشي كسام سنة الله قالوا يقول هيدين وكي وسفارة السومالة والتاريخ الدجال كان قال هيدين كلام كفكر صدق رافض النوشي مكان واحد ما تقول أمر ده وينبغوا يتركي ستو لجها وحاول تدمن تعلموا الإسلام لو واترى بدأوا يهيا قرنوف تسالس كيجيبوا وما بورتها نقطة فوق عليها مكان تدحوك كده سجيسان واحد كده يدبين وحنا ترى نقص واحد نقص سامبل من نقطة النقص اللي ما كانت كتر تطار أو مدة تكون يريك لسان مكان دول الجركينا جعلها دول الجرتان رياضة ما كان مطر داريا والسومالا كل لأنها ما لها واحد طريقة تضبطه ما تعني أدري وجود لكن زارن حفلها ما واحد إفرت سومالا فلا أدري منه السومالا تكمل ذلك كمالها وتستيس لك من الحوار هاي قول من أمين قول من أمين هو من استيس لك من الحوار بس تحديد أنا طاير يعني هلا يوم مثلا الدور الهول وماشي ساق وبس كاس الدور الهول ويومنا من هنا تسوي ده يعني مثلا نقول إيه بدون ده تريني ما كان على ده وضع إلا إن قبل السؤال لا هو كان بير كان هاي إنه شري كوبس عشكي وقت واحد كان قرني إلا كان برمن مرة الدور الدكتور إنه رجع قرية مركي حمل كلمتين يعني الها waxaan ilaahu goorbu dhamaanaya ku fikirey markay soo qaxeen xawri baadeen markii ka baa gashay anu dadkii waxaan wadada joogay ku dhacaysay wixii dagaal iyo dhibaato joogay habeen dheer uga weema laakiin sid xaqii dibadaha joogay xabaro ka yimid halka markii ka baa gashay wadadii oo qaar ku dhinteen inta la gaarin ay dhiibay la gaarin marka waxay ka saxa odayaasheena ku taliyada go'aan ku qaateen quraha qaan inta kortay ku dhisay maanta inay nala foolxmaanay waa leeyahay xafladaha إذا كورمود كان نقطة ما إحنا هذه هذا وين نقطة قلدي راترتو هذا الكودي انتهى الشباب نقطة هذا الآن يجري عقلي وهذا قروح بضم هو كفتة واحد وراد من يوم رسم إنه يقول كفتة ضي راشح ساقه حوري وراد ماشى مرة وري رشيد الشيكة اللي جري وراد دم قري قارن وحكوا إنه قري كسر علمي وبري جنبه خنا اعتراف كورمود كان هو ملاقات كان
cabsiye iyo rag badan ku jiraan ka hadlay waxay war halka ku muuqdaa kafta ninkii koobadkii ninkii bixiyay halka ku muuqdaa baa hadalada laga jeedinay marka waxa loo baahay waxa inaan hawshooda maartay dhanka joogsano waxaana ilaahay iska badayo umadu abiye Soomaalida wax isku haysta intee Soomaalida ma hayne Soomaalida maanta wax isku afartii isku timaadaaba ma soo gashaa walaaleyna ma nabile walaaleyna ma sha Allah barakeeyo nabada Allah xasiyo sakiina soo gaaraan inaga inana gaar Allah way ma garan doonaan halka taariina qaran qurux badan jaadooda noqon oo tare deere hayna itraafare halka taariina maartay inna wax kala carabi marka waxaan mar labaadii aan ugu dambeeyay Ilaahay aad iyo aad ma santiin ألف شكر بالله وسنو سنو كرامة سنو ما يدي كرامة يوم روح كنت عينيا قربة جوتين إلى عروض ترى إلى رجل عروض واحد يقول إحجام مالتي كلتر بقول كلتور إحجام إلى عروض إلى رجل وينو باهلي أو الجيل مشان غير ما بخنا عنه الله ينصر وشد ما تين سيد خيلنا إلى بوجر براس مري فاتح صعب على الله سبحانه. عاد بان الحكومة نقينا تدوينين شرفت له البحر ريروتوا سيدا وعن سودوية مدحنا حقين كنا الواحد رواينا لو جيتي صدق بحيو حفلة يقول إن استيتهم كما يوي صوص عطا واحد ولاين لو جاي قلوبه سيفي عم وسوق يبقلو بحي فاهنا تذكر طبعا قابلية وأي هرمود كتاهي وكيل كنا سمان لان هلا صو حليلو وحنشعل هاي سيفي عن حفلة النور دعوة. Let me call Lily Opina وقبل وعلى رئيس حزب conservative Napin. I'm going to give her 2 minutes. Please come to the podium. She's the candidate of Napin Conservative Party in the coming election. Please welcome Lily. Thank you very much. My name is Lily Obina, and I want to thank you for giving me this opportunity. And I want to thank your leader. I really like what he was saying. She was telling me all the things that he was saying, especially about community. I'm from Uganda, and we are one. And I am so proud of what you did for Abdi. As a community, you showed us that we can do it. Together, we can do it. We all know that Nipin is actually a conservative riding. It always goes to conservative. So if we work together, we can win that riding. They have given me the opportunity to run there as a nominee. And I am excited to do that, to represent you and to work for you and to represent the community. Because I want, when they look at Harper, behind Harper, we have black women, we have black men that our kids can see. And I know we have links back home, but we also have to build this home, a strong home for our kids. I have an 11-year-old outside working with me. I want to show him that this is his country,
Because if he works and makes money here, he can send more back home. So I think that we need to work together. If you're able to support me, I'll be very, very happy and appreciative. And with that, if you want to talk to me, I'm going to be outside after the event, and you can just come and ask me how you can help, how we can work together. Thank you so much for the opportunity. سؤال أوريس واحد نسوي شيء مصطفى حسن أو من المريكان كيمي مريكان موشقية مركا waxaan jeclay inaa su'aalaha soo gaabisaan comments-ka iyo su'aalaha aynu kala saarno reesama leedahay dabeecad baynu leenahay qof walba su'aal weydiiyo taariikh u geliya taariikh ma baahnin su'aashaad research noqoto concise noqoto short noqoto si qof walba jaan su'aal hadii kale shan su'aalood bay noqonaysaa saacada dhan marka you have two choices ina saacada ku ridaan maanta comment iyo in dad badan ay su'aalaha kala deeyan isku yeeshaan So I'm going to please ask for God to ask ويدي من الحكيين. كسروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Mustafa Mohammed Hassan. ريك ماكايمي السيد عاد يا أيام تكون غير يا أنا اعتمد كندا اعتمد وزير الدولة عاد يكون غير يا سوماليا ونيكو ويمن وضع بينك حكيين. ودنك وانتهي وصار كودك في عين بدو في عنتها لكن حدينا الحزب أما دولة تلنا سيدنا كنتم شيء ملاك خدم وحظا إنه ما حقاقيا وحكو صارك ودنك تقول هذوك هاي عدرت لبدي نوح كذا واجسين السليدة اللي يدك كان غيرني وحن سليدة اللي قضي إلا هذا الشرع البرلمان اللي مغربي وزيركو برلمانكو وهرتي إلا يحد الشرعي سليد الوقود لها إدتك وعجيجين لو سمين لها إلا حد الله مسمع قبلنا نوشر هذا صوت اللوجي إلا يا سؤاشا اللي بالك وديني واحد هاي كونتراجيدي سليدة كومباني يقول إنفستمنت باو يقدروا حتى هذا كومباني باوينو مريكنا كسر غير كلام وحن كان كومباني يقول وينا مريكا عارفور أفغانستان ما أفسر الجو عسكري كها مركي عن كان كومباني si aan dhaqanka ahayn ayaa loola dhaqmay kontraagi marka hore waa heshiibaaliin markaan duubay tagnay ma helin baali ilaa hadda dawladda Soomaaliland gabay soo jawaabin kombanigi R4 ee uu lahaa Colin Powell 5-star general Mareykan uu lahaa waad soo dhaweysay adigu wasiiradu soo dhaweeyeen ilaa hadda wax jawaab loogu soo helin kontraagina ilaa hadda OBU meel maray ma garanay labadaas su'aalood badiga jawaab ما سيهاي سؤال الله بعده حدي بيا أقاسمين لي هون أحمد محمد فارس دل سدور وزير الدولة وسالته برشلة سكرية لتريه وكيلك أنت بوان السلامية مدعوينين بدل بانو هالكن دباتل موجود بدل من آدي واحد الله حكم من الشرع doorashada waa tii la sameeyay guddigii sharaxaad bay ka bixiyeen waqtiga ay sameynayaan dadka halkan joogaana way sameeyeen bal waxaan doonayaa inaad si fiican ugu taataabato shalayna waan ka soo noqday horta magaalada iyo Hargeysa nasiib darro lama kulmin gudoomiyaha waan raadiyay commissionka inaan weydiiyo exactly saxdii laga rabay inay soo dhigaan dawladdu ay u soo gudbisay electoral commission وقتك الدورشة القبصة ما يسوى والحبلات بيكون قبصة ما يسوى شو مركز لقى بلابو مسديد بلاب با طبعا بلاب با مسند با سؤال حسن وحرادنا بل شرحات إذا مدحوين سفي عن موقف عفاح السلام عليكم وحنقول يوسف بارندي بيان يوسف سؤال وقتي سؤال ملا ندري بعد سؤال مستفيد بالحراك شو بيو الشيء ذا البحوك واقع أو مبوغي لكن سؤال سيدي أنا هذا جوابي وحوي كوميشن كدور شوي وحوي وهاي شرعية ودستورية
xisbiyaduna saddex xisbi qaran uma xukumaan komishinka doorashooyinka dowladda uma shaqeeyaan waa la nominate garaya xisbiyaduna qaar bay keenaan madaxweynuhu inuu keenaa muxuu ahaa guursina qaar bay keenaan dabeetana markay dhismaan ay noqdaan ay dhismaan sidaa ku dhismaan markaa way ka baxaan farihii cid walba markaa waxay noqdaan dhex bay ayuu noqdaan waxay madaxweynuhu magacaabay wixii wixii processkii waxaan process bay maraan processkii waa la sameeyay dowladda 25% baa ku soo aaday lacagta lagu geliyo doorashada waa shugneen oo dowladdu way shaqay lacagtii way ku wareejisay komishinka doorashooyinka oo $20 milyan inay ahayd markaa lacagtii way gudbiyeen komishinka way magacaabeen komishinku dabeetana markaa waxay asaas garayaan doorashadu xilligaa in la qaban karo iyo in kale waxaa kaloo dheertaa ka xukuumad ahaan xeerkii doorashada waa la gudbiyey baarlamaanka la geeyey waxaan maray weli anaa xitaa baarlamaanka inaan kasoo bixino baarlamaanka uu yaallo ma hubo laakiinse inuu uu yaallay markii ugu dambeysay komishinku markay asaas garayaan ay eegaan doorashadu iyo waxa weeye card voter card baa la doonayaa voterka xilligay ku qabanayaan way eegaan markay eegaan markaa dabeetana waxay odhanayaan waxay soo gudbinayaan war ama waraaq way soo qorayaan waxay odhanayaan doorashadii kuma dhacayso 26 Juun ama kuma dhacayso 25 Juun wadafa la magacaabay markaa waqtigu yahay dabeetana markay soo gudbiyaan awood uma leh iyagu wax la kordhinta waqti ku daris waa la weydiinayaa waxa la odhanayaa imisa ku dhamaystiraysaan cod muxuu ahaa voter registration waxay odhanayaan let's say 4 months bay odhanayaan 4 bilood ayaanu ku dhamaystiraynaa 4 bilood marka 4 bilood dowladdii waqtigeedu wuxuu dhamaanayaa oo ku eegay 26 Juun 4 bilood marka dowladdii legitimate ma noqonayso marka dowladdii yaa legitimate garanaya waxay jirtaa hay'ad dastuuriya waa hay'adda waxa weeye waxa jecelahay istaagay hay'ad dastuuriya waxa weeye waa guurtida oo ah very powerful cid walba ka power weyn guurtida marka waxay ka dhigaysaa ilaa waxa weeye waxa jira xeer odhanaya oo dastuurkeena ku jira dowlad waxa bedeli karta dowlad waayo meeshii faakasi hadii la yiraahdo dowladii waqtigeeda waa dhawlay 26 Juun doorashada ma dhicin soo dhaafaateen oo ku yiraahdo yaa dowlad noqonaya marka cid dowlad noqonaysa marka waayo marka xeerkaasa la iswaafajinayaa guurtida commissionkuna ma kordhin karo ma oran karo intaasaanu 4 bilood annaga kordhino awood booma leh marka hay'adda ugu sareysa taraf ayaa waxay soo saaraysaa waxay oranaysaa markaan eegnay arrinka doorashada ku dhacay dabeetana iyaga markaa ama 4 bilood ku dareen waqti oo la tashaday waxay la tashanayaan xisbiyada qaranka waxay la tashanayaan komishinka qaranka madaxweynaha cid walba marka la wada tashado markaas la oranay intaasaan ku dareen doorashada intaas lagu qabanay madaxweynaha markaa waraaq qoraya madaxweynaha markaa uu qoray komishinka doorashada oranaya waqtigaas weynay doorashadii lagu qabtaa oo waqtigaas sheegtay weerarada ka dambeeyay waqtiga markaasuu isagu sheegaya waqtigii doorashada la qabanayay madaxweynuhu markaa sheegaya ay si official uga soo baxaysaa xafiiska madaxtooyada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi أصدقائي كابت كوميشن كورتا ساو شيء سكان مدح بنان تايم لاب سوق بيرين إما تايم لاب نسوق بينا كم كل دورش تكبر هذا سوق بينا تايم لاين كي توا جريت كل كا ديم بس لا ربنا نشوف هيري أوكي كا قياسان وقت لو تلاقي لهم بقاقي بس دي ما كان مرة بين تايم لاب تبغى فصل كان وتنت تفتح بها هي تايم كي رسمي اوكي وقاعدين اقرب كل يوم يروح مثلا يقول لي ما دام يستلم كل كان يقول قصص كذا كل كان مش الطبعات اللي توجدي بلا مش marka اوكي وقاعدين باش عشان وحي ودي كل كان بلا وقاش تايم لكن كان doorashada soo gudbi doona marka soo gudbiya marka maadaama ay waqti ka dhaafayso nidaam sharci ah oo yaalla maraya iyo soo gudbiya طبعا الجو مصطفى قلت هو الشراك يا سيدة يا الغاز يا الشراك ايش اسمه ايش واحد الاسلام لما قال ايش اسمه كلها بسيطة الفريق يلا قاعد يلا قاعد حلقة واحد مدين فرق جرو بعلمك مريضتيس ملا يعني وقت جد مركب يعني وكان مباشر ممكن واحد صوصات كي بعدين الشارع مرة الشارع
bislaado ayaa baarlamaanka mari doonaa imika weli wixii waa iska waa maarid intay maarid tahay imika maalinta waxay dhahaa waxaa la siyaa beerd baa la siyaa kabriyada marka beerdkii marka la siiyo waxay soo xadeynayaan wixii baadheen dabeedna wixii u maalinta noocaas la helay kolkaas heshiiska rasmiga ee barnaamijka shaarika la sameynaya marka dastuurkeennii على الدستور كم كيسو من الملكية جلود مرة كبير في البداية مثلا لما عربية بيل بنوصل على مرة فيه يعني بطل بيل بتوصل تاهل كده قدامي ما يجي واحد يشتغل الله عليك وقت كده من الحال كي يختار كي قبل كل هذه يدخل هذا الشيء واسكبها ولا قرده تكلا كبرجع عفوا وحطوا تحت واحد هنا وبيجدوا تحت marka waa technical wax qaada hay'adii nooca gudiga qandarashada iyo tirtirsiisay kuwa laga kaabo marka kama oran karmaanta kuwa laga hadlaya kuwa laga mustaqbo waxaas wuxuu dhacay sax way khalad waxaas wata danana samaanana hay'adii noo qaabisay baa qaatay waxay tiri kamariga saxda loo kaabo ku qaracna awoodan madaxweynaha ka daba tagnaa يجي هو أخريع مش بجته مكا وعلى بيرة فوق العالم بس كذا دولار هذه من اللي يريد كملي كلاه واحد من الناس كان عارف بدي قد راسه خارج أيام وشاف قبلها كان سيني هذه السؤال هيان حنودي بيا إنك كوننا أبو رئيسة شغل نسيبه يا رتي مقعد محمد شيس السلام عليكم وحياة صباح محمد سليمان هرت آدم دين سلامية سؤال شن مدحوين وكحين كربينا ويدي يوسير كتعليم تبع حويا سؤال ودو كنجارة مدحوين وكحين كواحد ويدينا سيدنا ويسير كلاس عنو شقاقة كدعد مر والبقى بلاد بريئة إلا بلاد لها غير قرود كدحنا معلومة كويسون نقطة shantii sanadood ee kulmiye waddanka haystayna aad bay u badatay dowladda maxaa uga qorshe ah waynu ognahay inuu madaxweyne ku fidiyey dhowr jeer gobol nabadeed oo ay mar walba fashilantay maxaa u qorshe ah dowladda in ay ka qabato ay ku joojiso shaqaaqada su-aasheeda labaadna waxa weeyaan gobolada waddanka ee bariga waxaa ka muuqda dib u dhac badan waddanku waa run ammaan baa jira kulmiya waddanka u dhisay laakiin wadamada gobolada bariga waxaa ka muuqata dib u dhac badan habo u horeyso airportkii burco dhakhtarka burco ceyrigaabo waddanku u dhismay waa run laakiin gobolada bariga dib u dhac baa ka muuqda maxaa dowladda uga qarsho ah in ay ka qabato gobolada bariga iyo dib u dhac ka muuqda sida tacliinta caafimaadka baahiyaha asaasiga ah wad mahadsantihiin صباح سؤال كان قبل ما هيسا هي خالية هم المدن حقين والمر بوش ما عاوز نحشي قدوم بسم الله ما قاعد يروح على رسالة حسن سؤال شيء يروح يقصد صدق هاي أهينتا بالصوب دكتور بربراين بكا إن لقشين يوين محيه يدي لص حيوين يستو حيد كسرتها إماراتها وحن سؤال شيء وحويا أهينتاس ميا لقب عندي ميا هيدها شعبها iyo mucaaradka iyo dawladdu intaba ay ka wada hadleen in maxay hayday arrintaas ay noqoto mid maaragtay shacabka ka go'da oo waayo waxa weeyaan maadaama inaan layna aqoonsanayn waxyaabo badan baa ka soo noqon kara hadhowto sharciyada adduunka kama mid yihiin hay-addan maybe inay ka mid tahay laakiin inagu dawladaha waddan ahaan waxa weeyaan inaynu maaragtay aad uga baarandegnay oo aynu ka tashanay taas ma dhacday mise waxa weeyaan arrin dawladda oo qura ay go'aansatay oo ay doonayaan inay shirkaddan u saxeexaan thank you هل كل مر بوش كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورحمة السلام يا مدحوينها وحيجينك سكرية وسارة وحبرشة أحمد
iyo safiirada lula su-aasheedu waxa weeyaan maadaama inuu waddan la ictiraafsan yahay aanu ahayn dhaqaalo badanayna soo gelin dadka inala diraska ah dhibaatooyin baa haysata oo caban inay dadku ay inooga yimaadeen ama aad soo dhaweyseen maxay taladiinu tahay sahalkaa dejinaysaan thank you waa maasanta madaxweyne soo dhow reform بسم الله الرحمن الرحيم شقاقة سؤال في عفتي هوشا كنت مولود يو بوضع كان حيسا وبوغ لو تعالى وطرتي إذا ما يجعش حماته عندنا قدر كل اختيار لما يبدأ معنا أنا وكدول هذا كذا آد بنو جنا مرة بين يوحش لما هذا صار شكلين يقول بنا فيه هذا مرة وربا يبدأ بجري نقطة كده ولا كاو بدنا وضع بدنا لكن زي ما قال مدام الجود بيسي والشود وادي وقاش بدل ما نوتي بدي لبدي إن السر كبر على تزايد على إن ربطه ضدك له حد كبر على طول دوش الرجل نوي في العطاء فقال لبدي هذا مش كده حيسي يا رب عدائي سلادين تيجي يا وقاش مش بيبادين لكن سمر ربنا بطل واحد جدا ننتن كارله أو تركب الجبهة شيكتا أو حاجة شيكتا يلا باشي مرفع عمر الصور وشي لا ما أيوة فريسة على وجهها أيام صاب عشان بشيء عشان بحدي إصلاح مارج هذي أيام نادر لله بقى نبدي مخا بقول أنت بلا وطهاي بلا إنه مش هسي كان تقول وربو خوف باين وما يكره بقى تطبخ ماني ومرة يعني تاخد راحة كتير marka la soo dhawaado marka reer laga dilamid ama reer laga dilo wixii baad intii xaraf cusub u bilaabay marka qorshahay mar walba inta ka soo qabtayna waa dhaaf aan tahay laakiin soo mudaynay dib wali xagga la ka dhamaanin dad faraqutiri sida ay hajar mar walba nabada ee ka hortagayaan marka soo dhaawato laakiin sayidka wala soo gartay cidii dhaxalka wala gartay أنا وحنا كعوان نقراوان وارو دياري مركز ريت مدلوي مدين أنا مثلا حين ما أقول برباشا نبض خبرنا لعطو إن عيد كان العقل نوسي سو ترى بدنا سلعطو هي الملعب سو قاتل بقولك يا استعمال باش ويتو باطل هي بنوطر ولا يبرنا لكن إذا حولنا خشوا سيدا كده هذي كيس هوستي سنو ما كنت عارف تايتو نبض قاطو ولا بقى هذا أنت كسر بحال geelo qasha ya wixii uu yeesha marka insha Allah iska ma doonta taasi waa hawsha aad ugu jirnaa talabaad taasi saga joogo tani wax isku raacay inta kale horta waxaan gabadhan rudo sheegay waa su'aal fiican weydiisay waxaad ogaataa taladu mar walba cidii ilaahay taladu dhiba talada leh bilaada kuna waxa weeyaan mar walba cid hoggaanka loo doorta talada leh wax laga badhaxaysiiyo حزبية إيو شعب يقول حسي قف كستوات تراه يعني واحد رباي وين ولا بدك سو ربا وحنو نيري كرين ناو وطا سي شقا وروي ما تدقون هرو مرو واحد لو ذاك public private partnership وما أنت عالمكم أما تريد تحت لو هرو مريين بقى دي كده مكان هذا إنه ولي لبس حين لكن شو حويان وحلا وحل كانوا مسارية وأنا قف فكريا ورادي فرانسيسكا بلوري ورادي دبي وين وحد إنتاج شغال الله مريا وعلى ثلاثة توقع مع قرصنا إلى لما قفوا جيز وكله إنه دنتي شو ذاك إيريا وكان واحد لو أنا مرينا إنك لو أنا ما هني لا أفرق ورا يوها بريتنا واحد هي مكان ورا وهم مركلها وهم مركلهم مع قرصنا تايم ما لقيا تايم سوق غيري هاي انت ما كان قليا فائده وطن قيريو وقالت واحد وقعتها ما قلتني وواحد ترك يطلق وطن هذول لو اعتراف سنه هدي لو كان غنيمه 300 مليون دولار ما 400 مليون دولار دين القفصن هو يا ما انه قيرن اونرسكا الى انا دول بنو كي وريجينيس لما وريجيني ترك ما دسيا بعدين ما
maanta awood dekedeena maanta berbera dee waxa waa tu-ood ma hanan karto 80 milyan Ethiopia waxaan rabnaa inaan qaybteena qaadan laan loo kaca maanta Djibouti jaarkeena walaaleyni 3 dekedood bay marayaan inagoo isku berbera ka leesaanay ina 3 dekedood sameysano qaybteena qaadano iyadoo u baahan marka mentality-ga oranayo ya waxba la qoobaya dad baa la iibinaya laba iibinaye dalka la horumaraya hadii maanta laba dekedood sameysano oo maanta dekedeenu dee wadawtiina waa tu-ood ma maamuli karto sanadka ama bisha 30 container maamuli karto Djibouti dollar 2 million containers iyo wadaysa sanadkii waa 2 million inaguna waxaan wadayna maadaama inaan lahayn terminal container kadena lahayn mana samaysan karo in been isku sheega maaha oo la yidhaahdo dee waa inagu waa samaysan karnaa maxaa loo waxaynaya waxa weya wala dantaan ka rabnaa waxa weeyaan cidna laguma xumaynayo qaranku inuu qurux badnaado dhaqaalo ku helo haddaynu maanta dowladaha horumar aynu investmentkooda qaadano wuxuu noqonayaa nin dan ka gashay oo dantaan leedahay beri yeelan doonaa in wax kula doono berito hore dowladdaas siiseen maalgelisay wax saaxiibka kala noqon doontaa waxaan rabnay inoo dooni doontaa marka waa maalgelin dalka in lagu dhiso la rabay maaha dad cid lagu xumaynayo dadkana qayliyaana jahli u bahayabta wanaagsan wax dhibaato oo jira ma jira waan kasoo qaadnay example kaabaan ku siinaya Djibouti marka BB ka dhigan ay maamulaysta ay dowladdu maamulaysa dekada Djibouti waxa la wax taraysa wada waayo dhowr sanadood baa bishaarkeena waayay maalintii ninka Ismaaciil markeeda uu dalka yimiday ee uu private gareeyay waxa weyn public يعني waxyaabaha public ma laha maamulaad ma laha oo maana sas ownership ka baqaro wax oo loo mooyaan ma public waxa cid walba ay dareynay gaariga waa taqaana public ah labada gaari ninka private kuma toos u soconaya ka public ka shalay iibinana wax oo loo mooyaan sidoo kale diyaar lagu fayaan sidii looga bedelay ilaa wasan baaba marka BB waa wax lagu hormaray Djibouti waxa uu gaadhay maanta adeegyada ku bixisa ee ku stable tahay waa maalgelinta heshiiya marka maalgelin aqal fiican baa lagu shaqeynayaa dadku inay fahmaan oo in ka hor imanin siyaasadda dowladda iyada u tiri hadda ninkii laga saariyay dhafadhiye maarta gudmadu ku jiray de godkii muddo ay ga saaraan dadna baday taado dibida gudaha iska qayno asdaro marka waxa weyn waa loo baldaaya inta shaqada la kala dooranaya waxaan hayal garaysanay dad aqoon leh oo sharciyada laga eega ilaa weyn maarta qaar laga bixiyay qaarna anaga bixinayo inta wadeena marka oo aad loogu meeldayo weyn maarta cidla lagu tureemo qaxootiga yaman kulley qaxootigu dee xeer bu iska leeyahay adduunyada maarta meeshuu yimaadaba inagu uma hayno dhaqaalaan ku hayno laakiin sida hay-adihii caalamiga ahay UNICEF ay ka mid ahayd ayaa kulley qaban doonta marka kulley waxaa la dejinaya meelaha ku habboon loo garto kulley farsamo ahaan ee hay-adda iyo dowladdu isla garato iyaa la dejin doonaa insha allah iyagana qaabili doona waxay maanta inagu laba nooc ictiraafsaneen kuwa la ictiraafsanyaana dee dhaqaalo waa inuu keenin dee way tegeen laakiin dee jimciyadda quruma baa dadka haddii uma maamusha qaxootiga Ethiopia kale jimciyadda quruma maamusha marka jimciyadda quruma baa maamuli doonta inagu soo xaween dee inaan nabadgelyada aanno inaan soo dhaweyno iyo meesha dejiro si dhaweyno ina Maxamed Salmaan su'aashii ahayd gobolada bariga maxaa dib u dhigay haddaan wax yar isu taago horta dee dowladdan lafteeda waxaa loo tiriyaa bariga oo ninka madaxweynaha ka ahi waxa weeye waa nin bari ka yimid marka haddii waxa la yihi caana jiilaan camba candareen haddii la yidhaahdo madaxweyne markaanu galbeedka joognanayo madaxweynuhu waa bari oo wixii ummaddu lahayd bari buu geeyaa marka xagga kale la yimaadana qoladii bari joogtana ay tidhaahdo galbeed baa wixiiba qaato bari waxa ma jiraan waxa weeye dalku waxaynta aynu waxaynu hayno iyo waxaa kala badan iyo dee dhulka baahideena hadda hargeyso kale marka joogto dee hargeysa wax walba ma helin dadkii unbaa tegay oo 6 gobol 13 gobol ee Somaliland isaga yimiyo soogano sidaa u taagan waxay u baahan tahay biyo mareen
waxay u baahan tahay wax walba macal iskuul bay u baahan tahay anigu waan joogaa wasiirka waxa wasiirul dowliga waxbarashadana iskuulay u baahan tahay wax walba way u baahan tahay hargeysadaasa u baahan wax kasta haddana waxa weeye dadkii hoosta u soogsoogo dadku waxay moodayeen wax la qabsado waxay wax qabteen dadkaasi wax yihiin waddanku waa isku wada mid way jiraan galbeedku waxay ku horreeyeen nabadda xilligii galbariga ay ka dhacayeen colaaduhu ku dambeeyeen nabadday ku horreeyeen dabeetana waxaa jooga community fiican oo qurbaha joogay baa jira markay iskuul la dhiso oo dee la yagleeloba waxa weeye community qayb bay ka ahaayeen oo qayb bay ka qaadanayeen marka xoogaa dadka ayaa nabadda ay ku horreeyeen oo baa xoogaa iskuullada laakiin dalku waa isku mid hay-ad koobi la yaqaan boorame markay ka guurtay waa tii isbitaalka sustain garaynaysay burcona waxay ka guurtay amasaf marka labadaasaa midna burco joogtay midna boorame joogtay labadaba waanu tagnay burco waxaa la yidhi waxay had iyo jeer sameeyaan hay-aduhu intay kuu yimaadaan adigoo cost sharing iyo wax samaynayo isbitaalkaagii sustain garanayo hawshaad si fiican kugu socoto ayay kugu imanayaan waxay ku odhanayaan waxaan inaga daaya waxyaabaha caalamka taalidka dunida saddexaad dee lagu magaranaysaa dhebiga loogu qoro waxay kugu imanayaan waxay ku odhanayaan annaga wadayna hawshaas bahashan iska daayo oo qofka neerska $500 $600 ugu horeyn raftarka $2,000 dabeetana cirkaa inta ku geeyaan oo maalmaha ka mida ku odhanaya argagixisaa ka soo urtay burco ama boorema meel halbaa ka soo uray dabeetana iyagoo aan kuu sheegin ayay kaa baxayaan markay kaa baxaan maxaa ku dhacaya kalaha waxa weye waad degaysaa gebigaa isbitaalkii dadkii oo saasay ilkaa isu eegayaan dabeetana waxay noqonaysaa inaad marba dhinac u carafo dowladdii maxaad haysaa labadaba waanu sustain garanay labadaba isbitaalka burco iyo isbitaalka boorame oo ahaa isbitaalkii ugu wanaagsanaa bariga afrika oo dhan labadaba dowladdu habeenkii booramena waan joogay community iyo tijaartii reer booramaan u yeedhnay dowladdii oo dhan annagoo waxaanu ku nidhi annana intaasaanu bixinaynaa $70,000 sanadkii idina intaa bixiya dabeetana mushaharkii oo dhan oo sidiisiiya ayaanu sidii ugu sadgaraynay dabeetana sidii ilaa inta looga helayo wax kale ka burcona sidaas oo kale dowladduna in bay bixisay tijaartuna in bay bixisay dabeetana cost sharingkii baanu soo celinay sidii baa markaa lagu rangareeyey isbitaaladii oo isbitaalka burco iyo isbitaalka boorame waa isbitaalada ugu fiican iminka dalka ayay ka mid yihiin airportka burco dee waxa weeye rome maalin lama wada dhisin maalinba waxaynu qaadaynaa horumarku dee waa nin koraya buur guudkii oo weliba dhagax riixaya saa u riixaya oo marmarku kugu soo noqonaya dhagaxii dee madaxa kaa jaraya oo waxa weeye hadba siday dee bahashu u shaqayso ayay ku xidhan tahay waxa weeye isbitaalka waxa weeye airportka hargeysa iyo kaberbera dowlad carbeedna inagu siisay xoogaa oo tiri ku dhista wixii terminaalla waaweyn oo sida kuwa caalamka inooma sameynay wixii ay dee ahayd unbaa lagu sameeyey oo inoo jooga dhijigii waa kan dee waa joogaan intii unbaa lagu sameeyey marka next waxa noqonaya kaa burco iyo ka boorame iyo kii kale la dhisayo wax laga hagranayaana dee ma jiraan xagga waxbarashadu way taabo qaaday way hana qaaday dalka oo dhan waxa weeye barigu dalka somaliland waxaa kala bara meel garada ku dhow garada marka dhulka baaxaddaa leh ee intaa la eg dee haddaad tidhaahdo waa in wax laga wada sameeya waxa weeye way adkaanaysaa adigoo aan dowlad weyn oo xoog leh oo la ictiraafsanayo oo lacag haysan haddana waxaan ogahay anugu meel kasta oo ay 100 qof isugu timaamo 200 qof ama 100 qof ay joogto iskuul baa ka dhisan xitaa ku dhow kuwa xuduudka ka wasaaradahan meelaha ugu fog ee xitaa calanka Soomaaliland aanu ka taagnayn ee dhulka ugu fog ee ugu xiga mesela Garowe macallin baa noo joogay tukaragay meelihii bergudhood la tagay la yiraahdo muxuu ahaa taleexay dhulkaas oo dhan boocamay waxaa noo jooga macallin iyo iskuul baan ku leenahay oo wasaaraddu ay ku leedahay waxbarashadu waxaa qaaday hadda markaan iman doono waxaa jira mashruuc la yiraahdo SDF Somaliland Development Fund oo lacag ayna siiyeen deeq-bixiyaasha caalamiga oo loogu talagalay dabeetana sanduuq bay ku dhacdaa Somaliland Development Fund la yiraahdo iyagaana monitor garayo iyaga iskale supervise garayo supervisionka waa iyaga waa qolada deeqaha bixin oo Denmark iyo Sweden waa kuwa dabeetana annaga ka waxbarasho ahaan $5 million lacag ku dhow baa noogu jirtay oo ah 2 gobol oo bariga mesela Sool iyo Sanaag dabeetana waxba iskuma aanan baahin oo ma oran meel walba dee hal candhuufayo isku walba deer yar iyo waxyaaba yar kuwa yar ciidda ku shuba wadooyinka
haddaad saasoo kale tiraahdo dee waxba ma qabsan laba institutionna waaweyn baan ku kicina waxaanu qaadnay in aanu sanaagna waxaanu soo qaadnay dayaxa iskuulkii dayaxa oo lamida iskuullada waaweyn ee dalka inaanu dabeetana iyana aanu dhisno iyo iskuul ku yaalla laascaanood oo laga muuse yuusuf labadaa iskuul oo waaweyn oo labaduba boodhan ahaan jireen labadaasaanu ayaanu samaynay horumarkuna dee sidaas u soconaya adoo wax laga hagranaya bari iyo galbeed toona ma jiro wax la hagranaya adoo cidi hagranaysa ama xukuumadda hagranaysa innageenaasaan waxba hagranayn dadkeenaa qurbaa joogaan xitaa waxba hagranayn hadduu awood qofku leeyahay uu tuuladiisii iyo degmadiisii u diri lahaa wuxuu kari karayo wax la hagranayaana ma jirto in adeere waxa weeye waa un dee siday noqotay dhaqaalihuba halkaa dee maray dabeetana waa la tukubayaa waad arki doonta iyadoo dhulkuna xagga caafimaadka waxa weeye package bay ahayd lacagtan ay bixiyaan hay-adu ayna siiyeen muxuu ahaa dee bixiyaashu waxay ahayn caafimaadka biyaha iyo muxuu ahaa waxbarashada iyo kalluumaysiga packagekaasay ahaayeen packageka anagu markaa qoladayda waxbarashada iyo caafimaadku packagekaana waa la sugnay anagu waxaan ku nahay anaga dee waa arrimo bulshada anaga khatar baabay ku jiraan waxayga hawsheeda waa in naloo socodsiiyaa laba isbitaalka ceeri gaabo iyo isbitaalka laascaanood min 2 million and half adigu waa 5 million marka la isku daro ayaa iyana lagu dhisayaa iminka oo SDF loo qorsheeyo u qoondaysan oo dee loo balaangareeyey marka wuxuu sidaasay u soconayaan insha allah waanuna gaari doonaa meesha aynu doonayno haddii ilaahay yaro wasalaamu calaykum dhallinyii waayay dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhiribeen alawdhow Somaliland dhallinyii waayay dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhiribeen alawdhow ودرتي للتاجي لدي على كيني دلان كينو نبض كسادي ودرتي للتاجي لدي على كيني دلان كينو نبض كسادي وما هدافها وانا كنسها وحيق عيبها لكي سعيها وطني قدبتها العضو وما هدافها وانا كنسها وحيق عيبها لكي سعيها وطني قدبتها العضو Somaliland